barnaamijka dohorka mahal daadihi iyo u tahay barnaamijka dohorka mahal daadihi iyo u tahay wixii xaqle dahahabe daha uga rogtaa wixii xaqle dahahabe doorka uga rogtaa dumarka Soomaaliyeed way ku dihirsadaan dumarka Soomaaliyeed way ku dihirsadaan allaha daaye ama ahal waynu daahawana barnaamijka من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين طاوديا شقيمها يقدرون تمدن ميل كستو يقدر ونسن هودا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبرامج كدور كوينكي واحترك بالشدة برامج كاسو تضباط والبقرة سعطان هودا صومالي كيبل يعني دوريا مالكيسا إن شاء الله تعالى اسكو ضيا إن برامج كي تاجنا دين صوم بدك إن شاء الله تعالى حتى بدأ وضيا البرامج كتضباط كانوا حنكها على سنبوك وفيسبوك دين صوم إن شاء الله تعالى تحسيدي فوش وحماية الطبيعي والطبانك بشي maalintii April dhacday dhalinyaradii farabadnaa Soomaaliyeed ku geeriyooday baddaasi maxay Masar inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kullu nafsin daa'iqatul maut wa la tadru nafsun bi ayyi ardin tamut qof walba Ilaahay subhanahu wa ta'ala geerida u qoran meeshu ku dhimeena qofna ma oga laakiin wali waxa la moodaa dhalinyaradu inay tahriibta ayna u dhagdaloolin ee wali badaha isku soo daadanayaan taasoo dhibaato weyn maanta shacabka Soomaaliyeed u keentay hooyooyin farabadan maanta ay goblin taagan yihiin ilaa imkana ma aragno dawladda Soomaaliyeed oo matalaysa shacabkeeda oo u soo banaan baxday ama qadiyada ka hadashay إنا لله وإنا إليه راجعون ضاوذ البرامج كان مانتا إن شاء الله تعالى مروجة فربنا لو حيجلا قيد قادنا قبل الصوماليات ومانتا هو يوينا ومروجة صوّدة طابتي قار قبيا يقار عروض ودي هالكن كل ثانية كبا مركان إن شاء الله تعالى وحيجلا قيد قادنا سهرة علي وسهرة خاطمة دمانتين بوض جران الثانية فاطمة محمد علي وهو يد الصوماليات المهد أياد وتقييد بشن مي يعني صاصع التفاوض اللي قصة يس المهد اللي جود الوطن كان يوكا يسعاد إسماعيل ووض جران الثان أبوان وين الصوماليات وعد كده في بحسن مانتا إن شاء الله تعالى برامج وصاد قضي يولي بشكر أحمد ويدنا هو الصوماليات وأرنتا مانتا كمل وجوت إن شاء الله تعالى قبلها الصوماليات بمانتا برامج كدور كوينكي واحترك برشدة بيجلا قيد قاضنا أنا وسجار ودم هاد علم يكون ملف فوق يقص صفرة إلى هاي يعني جزاء اللهم خيرا يعني خطوة يسوق قادر مانتا وخطوة أدو في عام مدام مانتا وفرنا التحسين marka waxaan ku soo dhaweynaya barnaamijka dhalinyarada aad u qurux badan gabdhaha Soomaaliyeed ku soo dhawo marka goorta su'aadan soo dhaweey su'aad ku soo barnaamijka doorka haweenka waxtarka walaalahay amaali aad baad u mahadsan tahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun dhammaan Soomaali weyn waan uga tacsiyeenayaa ubadkeygii iyadoo la daawanayo geeriyooday aadna waan uga tiiraayaysanay waxaan rajeynayaa inta soo socota inay dib u noqdaan aad baan ugu mahadcelinay su'aad waa Faadmo Maxamed Faadmo wada garanaysan inankeeda dhintay marka hooyo wax dareemaysa maanta inuu Faadmo ku soo barnaamijka walaal waa mahadsantahay amaalkaysi mar walba waxaad ka hadashaa dhibaatada Soomaaliyeed oo meel walba ka dhacda wadankan UK aan joogno gudihiisa iyo banaankiisaba inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun caruurtii yareereed aan wada dhalnay oo maxay ahayd markay jaamacadihii ka baxeen hooyo kastaba ay gablantay aad iyo aad feel beenan dareemayna aad iyo aad waxaana dawladda Soomaaliyeed meel kasto joogto aan ka cabanaynaa hadaan ay hooyooyinkii mar walbana aan ka cabanaa in caruurta tahriibta laga hor istaago الله يعزك وعلى بفضل كل ما دعلني أن أسود وأسود ميكروفون قدرة سهرة علي سهر كسر برامج كدور كون كون معنا أظن حسن وكله هاي إنا لله وإنا إليه ويريد فوش حميد كد علي المهير رئيس الصومالية كهلك مبلها aad baan uga tacsiinaya adiguna amal waxaa tahay gabadh aad u qiimo badan hadii adigoo kale toban la heli lahaa ummaddu waa ku siman tahay Soomaalinimadu waa ku siman tahay dadkaaga inaad horumar gaarsiisid wixii dhibo marka taagan aad ka hadashid ayaa diyaar u tahay ilaahay adigana heshiis ka saar الله يعزك ويسهر aad baan kugu mahadcelinaya shukri ku soo barnaamijka wal macaan adigoo culus wali halka noo soo maray wal khayr Allah ku siiyo waa mahadsantahay maalkiisa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun caruurtii meesha ku dhimatay samar iyo iimaan Allah ka sii waalidiintooda marka barnaamijkana caawa diyaar u ah الله يعزك برنامج كانوا بيلعبون أنا داود البرامج كدور كوينكي واحترك بالشدة وحى فوضى كان بني عالمي إنقل في النجار كان بني أصلا كان بني عالمية إن شاء الله تعالى حيسين سنة خلاص عتان برامج كدور كوينكي حيسين تا صومالي كيبل
oo soo saara dhammaan alaabta qurxinta guryaha hadday noqoto furniture hadday noqoto sariiro hadday noqoto kuraasi iyo hadday noqoto qadaba idinka arki doona ila booqda insha allahu tacaala haddaba daawadayaal barnaamijkeena gudagelayna insha allahu tacaala barnaamijkaas oo maanta aynu ka hadlayno waa barnaamij dhibaato fara badan baa gabdhaha Soomaaliyeed iyo wiilasha Soomaaliyeed baa adduunka haysata gaasata waliba hooyada waa يعني تمانتا وطالع وندريمة إن بدنا يداون سمانتين أويسو أنا قدرت هبلها دنتي اللهم حرستي قارن وحسوها هم بحتى كتيرة قار عن صاحب لها وفيسبوك عن صاحب كلها بكتيرة اللي يراوي اللي قبل بقى وأنت إلى سعودين شرا دبتو ينكود مركز سوى سفرين حتى إلى سعودين شرا أنت تعمل ونصاص عنا تهريب تا واحد كتير جنا ما قرينا شام عدم وقبل حديث لما إنه وطن كي واحد شرتا واحد لا يسكسي شقة قلا لا يسكسي يعني شام عدي واحد براتيل ومتش لا لوش بقى بحيا واحد مدة ما هي إنه غير بنوه إن هي مركز أرنتا ينتا مركز أركب تشيلي والله قاعد بنوجم رجودي إلهي هون حريستو جنة الفردوس أكورابيدي هو دمان dhalinyarada wada dhimatay Soomaaliyeed tacsiti raayaan loo soo diray hawada Soomaali kay balan la ilaahay haydin naxariisto wax wanaagsan ay idinku bedelo de kulli qofkii maanta daawanaya YouTube-da waa daawanaysan damiirku waa cajib qofka bini'aadam marka la qanjiro uu xanuunsada dadna hadii la qanjiro ma xanuunsada marka ilaahay waxaan ka rajaynayaa qof walba maanta damiir leh oo nolosha dunida maanta uu eegin bini'aadamku ha eego maanta aakhira maxaa dambaysa mas'uuliyadda marka qofku qaaday qof walba xil baa qof saar haddaad maanta xil ii dhiibtid xilkayga haddaan ka soo baxaan kursi inaan jeclaado ma jecli لكن بني آدم كإلهي ضمير كذا سوى عليه صومالنا إلهي كود قلبي جودا مد أنت نكوتشدنا قبيل يقول قلا نسونا يكنا واحتري أنا أدون كحكو ترين أو لو شيء القرآن كأنه كقاعدين لكن ما أنت أصلا تعالى صومالنا المال أنت أقول سوى شيء سته هو يوم قبيلات ما يقانان المه ودنتينا قفل بقى أنا جالسون يعني قيرانة يوا المه يجوا كلها إنما ما أنت هريب تنصاع أركي دنتي waxaa daran kuwaas oo socda iyo waxa Facebook la soo gelinay kulleen ka soo haajira wadanka wax ma yaalan wadanka wax ma yaalan dhibaato way taala qabiil baa yaalo dagaal sokeeya jira laakiin dhalinyaradaas badda ku dhimay rasuulka Kaleey salaatu wasalaam waxa ku duceysan jiray biyaha iyo dabka labadaas ku duceysan jiray yaani dabaal la galo oo biyo lagu dhinto iyo in dab gubo labadaas rasuulka Kaleey salaatu wasalaam ku duceysan jiray labadiba maanta Soomaalidu u baatay xitaa waxaan tacsiinay family-gii Soomaaliya lagu gubay 7 reer caruur iyo hooyadood indhaalayd ee la gubay ee guriga dhan lagu ooleeytaan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun hadaba barnaamijka inta gabagabin waxaanu galeynaa video clip haduu Bashiir inoo diyaariyay oo bal ila dhageysta insha Allah taala waa almarta waa fanaan daayir abwaan daayir oo Soomaaliyeed oo aad iyo aad u gabiya يعني داديس iyo halkay ka taagantay maanta Soomaalimaduna ay la dhageysan doontaan arinta waxaan u soo bandhigayaa hooyo walba maanta ilmaheedii ka maqan yahay iyo dhalinyarada soo tahriibaysa bal inay heesta wax ku qaataan waa hadal iyo qoraal insha Allah taala aad baan ugu mahadcelinayaa injineerada hawsha isku aadiye maamulka Soomaali Cable insha Allah taala adima weeyaan taribtu qorbuhu agardama weeye haddana halisiyo dhibaato dadkii kama hawl yaraysto barbaarteennii uleelo hilinka qaade kuwa hanti loo aftuubay kuwa hoganaya jeelka miyaydan wararkaynin miyaan isagoo hubaala miyaan dhalinyaro helaynin miyaan hoos loogu sheegin miyaydan wararka haynin miyaan isagoo hubaala miyaan dhalinyaro helaynin miyaan hoos loogu sheegin masiibada la hooli waayay hilfaha ummadii u qaatay dhibtaahii kicisay uunka mid weeyaan sii huraysa kuwa hanfigiyo kulaylka saxaraha heeti waayay kuwa marinkii abaabo haraaduu meel ku laayay miyaydan wararka haynin miyaan isagoo hubaala miyaan dhalinyaro helaynin miyaan hoos loogu sheegin maxay habla nacab u hertay maxay haadan ka tuurtay muxuu horar beer ka gooyay miyaydan wararkaynin miyaydan wararkaynin miyaan isagoo hubaala miyaan dhalinyaro helaynin miyaan hoos loogu sheegin maxay hanad hooyo weyday maxay hurda seexa weyday maxay
maxay ilmahay biibiqlaysay miyaydan wararka haynin daawadayaal ilaahay waxaan ka rajaynayaa inaad bal heesta iyo midhaha quruxda badan leh ay ila dhuuxdeen insha allahu tacaala weliba dhalinyarada soomaalida ee soo socotay badaha isku soo qubaya iyo kuwa qaahiro jooga xidhxidhaan codkooda dhageystay kuleeyahay meelaan ka noqonaa ma jirto qof dhan oo naftii ku jirta weli oo rabo bad inuu kusii dhaco oo le nasiib hadduu ilaahay kuwaa badbaada marka ilaahay uuna badbaadin baan doonaya inay heesta dhageystaan ay ka joogaan intii ka baxday naftooda ka qiimo badan oo ka qaayo badan rasuulku aniga idiin sheegay calayhi afdal salaatu wasalaam wuxuu ka ducaystay xanuunka la yidhahdo gubashada waxa dabka iyo biyaha labadaas ay idinkuna isu quureysaan maanta inay isgubtaan oo isqarxisaan iyo inay bad isku soo tuurtaan inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun hooyo walba Soomaaliyeed maanta waxaan ka codsanay in ilaahay qalbigeeda adkeeyo dariska maanta inagu dhacay taariikhda madow maanta taariikhda baal madow aan ka galnay maalinta 17 bisha April ee soo dhan ku jirnay marka wiigi hore xadii 440 dhalinyaro baa soo baxday oo soo tahriibto 440 kiiba la waayay maanta dawladda hadaynu maanta adag haysan lahayn maanta dawladdeenu saamay ahaateen dhalinyarada xaqooda loo soo qaadi lahaa hadaba daawada barnaamijkan waxaa fududeeyay kambaniga caalamiga Incon Furniture kambanigaas oo kambani caamilay insha Allah tacaala dhammaan qurxinta Soomaaliyeed waliba guryaha furniture-ka alaabaha sariiraha hurdada intaba idin soo bandhigi doona insha Allah tacaala waxay ku yeelaan xaafada Croydon ee halkaa ka moogaan insha Allah tacaala hadaba dib ugu soo noqono barnaamijka ama xayisiintan daawsiyan isku soo noqon insha Allah tacaala shirkadda alaabta guryaha Incon Home Furniture waxa ay sameynaysaa qiimo dhimis ballaaran oo ah dhammaan alaabta guryaha qiimo dhimistan ayaa socon doonta bilo kooban oo kaliya waxa ay shirkaddu qiimo dhimis ku samaysay sida sariiraha jiifka oo ka bilaabanaya 1299 baan oo kaliya sariiraha loogu talagalay qofka kaliya oo leh meelo lagu kaydsado ayaa waxa ay ka bilaabanayaan 299 bani oo kaliya soofaha waxaa xilligan laga dhigay 1300 oo baan kaliya halka alaabta qolka caruurta lagaga dhigay 999 baan oo kaliya shirkadda Incon Home Furniture waxa ay sameynaysaa qiimo dhimis gaaraya ilaa iyo 60% dhammaan alaabta guryaha wax lacag dulsaar ah ama riba lagama qaadi doono waxaana lacagta u dhiibi doontaa si tartiib ama waliba bilbil ah haddaba hore u gaar oo booqo xarunta dukaanka Incon Home Furniture oo ku taala degmada Croydon ee koonfur galbeed magaalada London wixii faahfaahin inta dheeraada fadlan kala xiriir ciwaanada shaashada kaaga muuqda بسم الله الرحمن الرحيم كسر هذا برنامج الدور كونك واحترك بالشيء إن شاء الله تعالى مركل إن الله وإنا إليه راجعون تحساس المنطقة وفرنا إن شاء الله تعالى هل كنا قبيال آدي آدو قيرة بدن بهويو يمكن لو طلع قلب إن شاء الله تعالى السعاد isku soo maanta qaamtay hayba muddadeerna u soo jeedisay gabiga maanta insha Allah ta'ala diin soo dhaweyso waxaan doonayaa marka hore bal sahra arintan dhacday waa arintii tiraan walaal saad u aragtay maxaa dareemaysaa shucuurtaada walaal macaani maanta hooyada badan baa wayna raajicuun wallahi amaane markaan arkay indhahayga waan qaracmay TV waan iska damiyay waxaan dareemayaa hooyooyinkaas hooyo meel ay joogtaba waa isku mid hooyo meel ay joogtaba waa isku mid aniga iyo kuwaas waxaan nahay same ilmahaas haddii shaqo loo abuuri lahaa markay jaamacadihii dhameeyeen oo iskuulkii dhameeyeen haddii wax loo abuuri lahaa oo wax la siin lahaa dee wuxuun bay qabsan lahay badaa waxay isugu soo tuurayaan ilmihii waxay qabtaan baanahay ilmihii iyagoo wax bartay waxbarashadoodii meel ay kaga faa'iidaystaan soomaaliyana qabiilka ilaahay ina ka nasri inoo ka soo rogo qabiilo qaran ma noqdo qabiilkaasa ina rogaya ilmihii hadduu wax bartay waxaa la odhanayaa mid kale la geynaya kii wanka gale xitaa waa la isdhaafiyaa oo midaan waxba gelin baa nin wasiir ama nin xildhibaan odhanaya kan ii geliya oo la geynaya marka inta waxaas ina ku jiraan dee maxba inoo hagaagi maya saasa ilmaheenu badaa ugu dhammaan hooyana saas u ooysa raas kambooniya raas caseen meelay joogtoba hooya saas u ooysa anina kuwa waa la ooyna la mid baan nahay wiilkaa dhintay iyo kaygu waasayn waxba ma kala duwana aad baan ugu xumahay aad baan kugu mahadcelinaa shukri sabarka inta mudada foosha xulay ugu soo biirtay waxaan u arkaa dawlad la'aanta keenaysa dhibaatadaas hadaa dawlad fiican aan haysan lahayn dhibka waa naga dhamaan lahay marka dhibaatadan aan saan ku jirno waa dawlad la'aanta dhibkaas noo keenayso marka ilaahay naga saara dawlad cadaalad Allah noo keeno amiin ya rabbi aad ma santa walaalo Faadimo inkastoo adigu waa ilmahaagii walaal Yurub adba aad ku weyday bisha nimka soo socotay May sanadkii hore ilmahaaga in la dilay isba
saad u arkaa wal macaani amaal waa mahadsan tahay waxaan kaaga mahad celinaynaa dhibaatada mar walba taagan ama gudaha ka taagnaato ee London ama ha ka taagnaato ee wadanka dibadiisa sida aad maxay ahayd mar walba aad maxay ahayd aad u jeceshahay in ay bulshadu inteeda kale ay beenka la wadaagaan waa dhibaataysanahay waxaan ku dhibaataysanahay keygii aniga aan maxay ahayd Soomaaliya ka soo xambaartoon islaha maanta wax bar berina ha ku anfaco aniguba halkan aan taaganahan ku waayay oo gacanka xaq daran ay ku dishay ha isdhihinina dadka dibadda jooga iyo ilmaha yaryar oo soo baxayo oo soo haajiraya oo naftoodii halaagayo ama waxbarta ama ha baranina dhulkaaga hooyo laguma dhaamo inkastoo ay walaashay Sahra ka dhawaajisay oo cadaalad darro jirto oo dhibaato jirto oo kiyo waxbartay midaan waxbaranin la dhaafinayo oo scholarship ay ilmihii madaxdooda u dirsanayaan ilmihii kale oo waxbarto masaakiinta ah oo Soomaaliyeedna ay ka tagayaan beenkaas iyo dhibaatadaas iyo xanuunkaas aad u badan ayaa caawa intana keenay amaal way ku mahadsan tahay mar walbana dhibaatada ayay maxay ahayd soo bandhigtaa jirta waxaan leenahay dowladda Soomaaliyeed meel kasto ay joogto hooyooyinka ha loo naxo caruurta ha loo naxo waxaan ahay ururka Child and Mother waxaan u sameeyay cunugeygii markaan halkaas ku waayay aan ururkaas u aas-aasay in caruurta Soomaaliyeed kuwa dariiqa jiifa kuwa dhibaatadu ay haysato kuwa koolada jidka ku dhuuqaya inagu maalin iyo habeen caruurteeni waxa waaye baararka iyo maqaayadahan ka qadaysiina laakiin kuwa waxay cunaan waayay oo hooy waayay oo meel ay aadaan waayay hooyadii rafaadkaas wax ku soo korisay ee dhibaatadaas iyadoo yaanyo gadaysa ama jidadka xaaqaysa ama dadka lacagta haysta dharka u dhaqaysa cunugii ay ku soo korisay oo wax ku soo bartay inay maanta weyso aad iyo aad waa mid looga tiiraanyoodo dowladda Soomaaliyeed waxa ka qabato arintaas intaasaan leeyahay sucaad maanta waa hooyo Soomaaliyeed gabay cajiibana soo wada iyadaan u deenaya barnaamijka inta hadhay gabayga hooyeyna wada sucaad adna wad garanaysa kulli in badan wad soo ooday walaal mar walba wad ooday waxa qof aad u qalbi jilicsan halka dheerna ay soo martay waqti badanna barnaamijkeena yaani gabaygan qaybtid aad u soo badhatid barnaamijka doorka haweenka ummadda Soomaaliyeed wad ku maasantay walaal ku soo dhaw aad baan dhowhay amaale laakiin waxaan la yaabanahay Soomaalidu meel kasta haday afar meel isugu timaado waxay tiraahdaa dhibaatada haysata Soomaalidu way arkaan nacam laakiin waa inta isla joogaan bay ka hadlaan male wax ka qabasho ay wax ka qabanayaan waa baseenahay waxaan rajeynayaa inay hooyada ilmaheedu dhintay halkeeda ku qabowdo amiin waxaan rajeynayaa inuu boggeeda Ilaahay u qaboojiyo amiin عوض خير قبل على سير آمين بسم الله وحنا لكن كلا هذا يا هو يدا الصوماليات أنا من سنة هاي فكرة الغطاء متكدون واي هل كان أنا كسب اللي جاية سيدا ولا دديو صومالي هذو أنتم غانا هيا وردديو صومالي هذو أنتم غانا هيا دمير حومده هيدا عيل بندق سنة هيا دمير حومده هيدا عيل بندق سنة هيا وحانا هيدا هالنوبة هادك استيلا هيان وحانا هيدا هيعوبة هادك ديدا هيان وانا قاندو هنا يدارنا هي ماهيرو هوي الدقنا هو عندمير لهين إن هوي الدقنا هو عندمير لهين وحا أدلي لدوه ديدا دهلنتا نوحا ودلي لدوه ديدا دهرنتا دمر كدلي وبدكدوه يلعاردين dumarka diilayo badka doohoyo la caaridin baldeeqa dhegayhiso sidii ilka ugu dirin na baldeeqa dhegayhiso sidii ilka ugu dirin waxaan dihday ubadadaha moodiday qila waxaan dihday ubadadaha moodiday qila na durustiyo cilmiga markay diinta soo barteen dibloomihi ay heleen jaamaca dugsile
dalkii laga waayay shaqo ay ku diirsadaan ayaan idhi dihiriyo ma tahriib gashaan waxaan idhi dihiriyo ma tahriib gashaan anaa idhi deheriyo ma tahriib gashaan dahabkii baan hibshay dahartiina waan u gaaday dahabkii baan hibshay dahartiina waan u gaaday iyo dollar baan siiyey daarihi qamar baan ku iri anaa u dalbadayo mahawdkeesa doona iri aniga u dalbadayo mahawdkeesa doona iri inaan ilma dahaadi mahaderi jaweyn inaan ilma dahadiyaha mahaderi jaweyn maxaadanaha haatanu aynu daharanahay u diida ubadkiina tahriibtay ku taagan yiin inadeeda tahriibta ubahadkeena dumarkiio oo dalkii hooyahalay hogaaye deri jahela dunida bahale noholu dushiisa dhigay dunida bahale noholu dushiisa dhigay haddaan nahay dawla Soomaali dahabkii lumay dunida afarteeda gees baynu dahadsanahay inooma damqaado binihe aadan wahayna dilay inooma damqaado aadan waahayna dilay afrika ha ku dahaalin carabta inuu uga daran dugaaga loo xirayo deerihejooyin loogu daray shimbiro daalaq yeereeyo bahahaasenu dahab ku dhacay ayaa loo deeray dadoo ay dirmaha muleen gabayga tiraanyada leh ee laga wada wariyo dhammaanteen hooyo walba maanta ila jiifto meelay ooyeyso ama ilmaheedii ka ooyeyso dhibaatooyinka maanta taagan waxaan uga sii degtiinaya anigu tan kale soo socota intaasoo malaayiin baa soo socota badan kusoo qulqulaysa oo imika qaahiro joogto barnaamijka imika daawanayo oo la socdo inay soo socdaan iyo kulay way naga go'aanta inaan soo baxno iyo dadka beenta u sheegaya badda kusoo daata wadankii wax meeyaale wallahi marka yani waan idin sheegay rasuulku ku duceystay kuri badda iyo dabka labadaan oo isku sameeyna hadaynu Soomaali nahay marka faadmo wad ooday walaalinankaaga waad soo xasuusatay kulay isba dhintay teenage-ka ahayd kusoo daashay ee lagu dilaa kana dawladna wax ka qaban Ingiriisiya mid kale ka qaban wax marka Soomaalida waxa la moodaa maabka Soomaalida Afrika maab baynu saasan maabka ugu jirnaa kural arday wax loo yaqaan maabka laakiin Soomaaliya waa tugu masaaxada weyn laakiin waxa doonay in taayir masaaxada hadha in la xiro oo la baabiyo taas Soomaal ku socota shukri wadooda qudhaad walaalahay waxaad ku darsan walaal waxaan ku darsan lahay hooyadii weysay caruurteeda nacam xoolaheedana ilaa hadda xawlaadlayaal baa lagu haystaa in haddii dawlad isku sheegayo dawlad maba u jeedo dawlad haddii isku sheegayo waa inay wax u qabtaan hooyooyinkii wiilashii xoolahooda inay weyn xoolahooda inay weynin oo xoolahooda oo loo soo saaro dadka madaxweyne iyo waxaas isku sheegaan madaxweyne meesha kuma arkin waxaan amaanay ku darayaa ilmihii wixii dhacay waa dhaceen nacam laakiin nimanka madaxweynayaasha isku sheegaya ee kutubka jaamaca ku dhaartay inay dalka iyo dadka ama waqooyi ha joogo ama koonfur ha jooge kutub bay marayaan waxay leeyihiin dadka annaga madax u ah haddaad madax u tihiin dhibaatada dhalinyarada haysata soo inay ogaataan maaha nimanka madaxda isku sheegaya ilmahooda dabadaha u jiraan nolol bay haystaan laakiin kuwaas ka nixi maayaan kuwaas nolol ma haystaan aakhiro waa laydin weydiinaya ifkana waa laydin kaga goynaya ilmaha iyo dadka iyo dalka u dhaarateen dawladna waxaa lagu noqdaa waa shacabkiina waxaa ka ogtiin ma jirto waa haligmeen inta joogtaana gaajo u dhimanaysa intii soo tahriibtayna waaba dhimatay ilaahay waxaan ka baryaya horta inaanan in dambeena ina ka soo tahriibin oo halkooda lagu nugeeyo halkooda waa in shaqo abuur loogu sameeyo wax loogu qabtaa wax loogu tara aad baan kugu macnaysay Faadmo adigu oo hinta dhamaysatay qalbigan ku baray baan telefoonada yara gal labar dad badan baa jiray kun soo ooyay sucaad aad noo ooyay walaalo iska musa aan telefoonada gal insha Allah taala halaw
barnaamijka doorka haweenka waxtarka bulshada ku jirtaan khadka telefoonada ugu buuxaa buu injineer kuwaad igala soo qayb qali kartaan insha Allah tacaala Faadimo كل ilmaha waad wadaad walaalo hooyana waa ta dareemaysa kuwa maanta Afrika joogana waad la mid baata walaalo la mid baan ahay hooyooyinka dhibaatooyinka ku dhaceen oo caruurtoodii oo jaamacada ka soo baxay halo salaam alaykum halo wa alaykum asalaam wa rahmatullahi wa barakatuh waa ku soo dhaw barnaamijka doorka haweenka oo maanta aan kaga hadlayno tacsiilaad tiraadada leh 16 bishii April aan ku jirno dhacday caruurtii dhimatay walaalo dhalinyarada dhimatay ku dhimatay badda Suuriya iyo Turkiga saad u aragtaa walaalo السلام عليكم kor codkaagana u qaado alhaye waa caruurta Turkiga ku dhimatay wayna ka wada dhinteen codka kor u qaado dhamaanteen horta hooyooyinkii iyo guryihii ay ka baxeen ilaahay samir iyo iimaanha ka siiyo iyagana Allahu naxariisto aamin talabaadan doonayo inaan ku daro amaalay waxa weeyaan caruurteenu wadankii markay joogto hooyo kasta waxay ka qaylanaysaa ilmaheedu inuu maqli waayay صح haddii marka horeba hooyo ilmuhu maqlayo wax maan lahaabaa iska yar abiyo hooyo midna ma maqlaan نعم ilmihiina hadduu kaa awood bato xitaa qurbaha la joogo waxaad ka qaban kartaa ma jiro واضح taana anigu dawladna kuma eedaynayo shakhsiyaad kalena kuma eedaynayo waayo hooyo iyadu ilmaheedii ka quusatay oo uu maqli waayo cid kale waxba kama saari karto وارن talabaad waxaa kale meesha yaala wadankeeni marka dawladda laga yimaado waxa jiray waqti ilaa iyo dawladdiisa yaad bareentan garaadsaday ku siman oo qofku marba jira waxda digida aanay dhoof jirin had la dhoofi jirin qof scholarship loo dirmayo cidina dhoofi jirin haddana qof waliba uu noolaa oo wax afkaa ilaahay kala jeexay wuxuu ilaahay siin lahaa looxal mahsuudkay ugu taali taasna waxaan leeyahay dhalinyaradu wadankeedii way ka qawadeen oo nolol kale marka horeba gaalaha haajirina baa la yidhi inay u soo haajiraan iyo inay soo qabtaan iyo inay mahluuka naftooda geliyaan ma waxa wanaagsan qofku markiisa hore intaanu tallaabada qaadin inuu xagga diinta dib ugu noqdo talaabaad ee meesha taale ragga Soomaaliya jooga dacalka joogaan ha ka joogeene dumarka Soomaaliya wax ma dhicin wax ma kufsan waxna ma dilin waxa qaxiyay oo caruurtoodii iyagiiba haadiyo han raawo ka dhargiyay waa ragga hadda jooga hana ogaadaan maalinta qiyaamada iyaga la weydiinayo الله أكبر وكلمة wadaadada mid baan leeyahay waxaan leeyahay wacyigelin sameeya oo xagga diinta ka sameeya dumarkana mid baan leeyahay waxaan leeyahay walaal deedaynu inaguba waxba qabsa ilmaheeni kari weyno waa waran inagu qalloocan oo raggeeni bay noo baneeyay oo de inay dhoofaan iyo inay silcaan iyo in la istilo iyo in dunida laga qaxiyo in dawlad la'aan meel kasta week ay dawladdu tahay maxay ahay tooy ilaahay baa daraygeena ina dhigay waxaan leeyahay min Somaliland min Soomaaliya caruurta dhalinyarada ah laga joojiyo baasaboorka qof dhoofi kara oo dhalinyaro ah yaanu jirin laga joojiyo waa haday doonayaan inay taasu inay istaagto نعم xuduudahana cid waliba xuduudda waxay la leedahay cid ay la hadasho ama Djibouti ha la hadlo ama ha la hadlo Ethiopia ama Kenya ha la hadlo والله خط بدن باجر والله معاني waxa khad ku buuxaan soo gaabi codka because wax telefoon badan baajir soo soo marka codka marka xaalka markaan soo gaabiyo dawladda waxaan leeyahay dawladda ka jooji fiisayaasha caruurada dibadda u baxaya iyo mid lugeed iyo mid dabadeed mid diyaaradeedba wad ma santa walaa fikrada saliimka insha Allah taala hooyo Soomaaliyeed baa waxay ku soo gabagabaysay baasaboorada dhalinyarada laga qaado tahriibta laga joojiyo laakiin dhalinyaradu waxay cabanayaan marka Ilaahay baa ku dhashay hooyooyin baa wada tiinay oo aqli baynu leenahay markay caruurtaada iskuulka dhamayso ay jaamacad ay ka baxdo oo intaas oo lacag lagu soo galay meesha positionka fadhiisan lahayd ama mid qurbaha ka yimi oo shindad sita ama ilmo wasaaqadu dhalay meeshiisa la siikaas mina calool way ka soo yaaceen khadka xiga insha Allah taala halo السلام عليكم codku gaaban yahay injineer Bashiir laakiin insha Allah ku maqlay halo salaam alaykum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أمل واكو سلامي aad baad codku daciif laakiin waan ku maqlay ku soo barnaamijka halkaad ka soo hadlaysaa walaal macaani
amalay waxa kula hadlaya waa Maryan Dhibe xoog iyo xoog baan ku salaamay aad baan ku soo dhaweynaya Maryan walaalo ma qale waan ku gartay buugaana Soomaaliyeed baad ahayd adiguna Maryan ay ku soo dhaw barnaamijka walaalo maxaad igala qayb qaadan lahayd waxaan kaala qayb qaadan lahaa horta intii dhimatay Allah u naxariisto inta hartayna Ilaahay ha inoo xafido sax arrin baan jirta inaan hadda wixii cidii daawanaysay idinkaba idinku baraarujiyo nin baa jira la yiraahdo Daahir Cali Sow oo soo bandhigay dadka wax tahriibiyo Qaahira kuwa jooga kuwa Soomaaliya jooga kuwa Liibiya jooga iyo meel walba joogaan hadda yiri dagaal baan la galeynaa oo shacabka Soomaaliyeed ka dalbaday gacan ninkaas wuxuu yiri internet baan furi doonaa habeen horaan dhageysanahay meel internet oo halkeer oo telefishinka aan galay aan ka arkay in badan oo dadka tahriibiyada magacyadoodii iyo sawiradoodiina uu soo bandhigay marka arinta xoog ha loola socdo ninkaasna nin Soomaali oo aad u dagaalamaya weeye waxaan jecelahay inay dadka Soomaaliyeed ninka la shaqeeyaan sida xididada loogu siibo dadka wax tahriibiya ma garatay si fiican ma gartay maranay haye si fiican waaya cusub arinta inaad ogtahay waaya cusub bravo calayk waa sida weeye amalay arinta waxa weeye xoog in la saaro oo xoog la saaro oo ninka la shaqeeyo oo dad muwaadiniin aad baan ugu faraxsanay dad damiir leh inay Soomaaliya ku jiraan ninkaas oo aad buu ii qiiro geliyay arinta ma taqaana ummadda Soomaaliyeed hana la isgaarsiiyo wixii laga qaban karo iyo wixii lala shaqeyn karana ma aragta ha lagu dadaalo ninka ina arinta sida nimanka xididada loogu siiba ama maxkamadda loo keeno ma garateen si fiican walaal Maryan waan gartay walaal waan fahmay waan la socdaana Daahir Cali Sow si fiican ma qaaday waaya cusub runtu sheegay soo laakiin dadku ma doonayaan dawix runta sheegay Soomaali ma jecel runta sheegay wixii wax bartay waxa la doonay qof aan run sheegin iyo qof wax baran taas arinteena noqota waa hadda inaga dan inooguma jirto hooyooyin hadaynu nahay ama ummadda Soomaaliyeed aynu nahay ama caruurteena ay maalin walba ay badda ku dhamaanayaan dan inooguma jirto inaga caruurta dhalay waxa weeye arinta hooyooyinku culays weyn ha iska saareen waayaa cusub adigii gabdhahana waa idin salaan caruurtiina igu salaan waa mahadsantihiin waan ku salaamay waan insha Allah ta'ala maalin barnaamijkan kugu cusumi doonaa soo cilisa baanimadii waad mahadsantahay Sucaad maxaa winta ugu joojiya winta iska socota maadaama qofku dareen leeyahay waad qiroonaysaa walaal caruur badan baa naga dhimatay Soomaaliyeed kuwii lagu nasan lahaa wixii Soomaaliya oo dhan baa dhamaaday dhalinyaradii Soomaalida bad baa dhamaysay anigu ma garanayo dadkan waaweyn dadku Ingiriiska marka wadanka la joogo dadku retire baa la galaa Soomaha Soomaalida ragoodu retire ma galaan ba marba kii ku sii weeyo ku sii xukum jeclaada hello assalamu alaykum hello waan ku maqlay wal magaca ka hadlaysaana السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلام عليكم أهلا وسهلا ka joogtaa gabdhaha meesh fadhiyo waa wada salaam London ka soo hadlaayaan waa ku soo dhaweynay walaasha macaanay waxaan ku hadlaynaa maanta barnaamijka tacsida tiraayada la ilaa ilaa wana ilaa raajicuun dhalinyaradii geeriyooday walaal ku geeriyooday wiigii hore axadii aad la socotay TV meel baad ka daawatay maxaad ka oranayd walaalo inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun waa xanuun oo Soomaalida ku soo kordhay waayo oo maalmahan dambe oo 12 sano ay tahay saas loo wada dhamaanay ilaa sanadkii ugu darneed marka intii ummadii wiilashaas ka geeriyooday gabdhahaas Ilaahay samri imaha Allah ka wada siiyo ummadda Soomaaliyeed Allah ka siiyo anako dhan Allah naga wada siiyo hooyooyin anaay oo qurba joogo ama wadanka joogo hooyo meel kasta way ku dhibantaa amalkiisa isku ogsoon tahay salaam ka dheregsan walaalo marka dhibaatada jirto waxa way ku wadanka joogay oo shaqooyinka ka heli lahaa oo markay wax soo barteen hooyada ku soo dadaashay oo dhibaato irfaad lagu soo koriyay dagaaladii dhacay la soo koriyay markay wax soo barteen markay PhD ga ama shahaadada ay qaateen ee shaqo heli lahaayeen haddii shaqadii ay noqotay garabaysi ama ay noqotay qof kale inuu galo wiilkaas iyo gabadhaas maxay ka qabanayaan wadanka ama halis weeyaba waxay ka qabanayaan mala waa in dhalinyarada Soomaaliyeed waa Soomaali dadka u soo kici lahaa anaga waa weynaanay waa dhalinyarada soo kici lahaa waa in la sii space waa inay shaqeystaan waa inay gabdhihii wiilasha isguursadaan jaanis la sii waqtigii hore anagu dawladda maxamed siyaad baraa guursan aan wax dhalnay jaanis la haystay ilaa hadda sida umalaysa dagaalada si u dhaceen sukay wadankeena lagu kala qaxay jaanis ma laha wiilasha iyo gabdhihii markii wiilkii wax soo barto kubana bam iyo wax darana laayo kubana badii iyo saxariye ku dhamaadeen iyo wadamada dariskay ku wada xiran yihiin marka dawladda Soomaaliyeed waa eedeena gabdhihii hore waxay yiraahdeen ma la eeda waa la eeda ay soo gaab wala buuxaa dad badan baa sugaya telefoonka walaale maxaad ku soo goongulaad lahayd
wallaahi amalkiisa caradayda lama soo koobi karo walaalay lama soo koobo baryahan oo dhan barordiiqa waxaad ku soo koobtay inaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuun inaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuun sucaadi gabal kale hayso ma walaalo yar sugaya codki kii kale maxaa wala kan waxaa la yidhahdaa maamada soomaaliyeed buu ka hadlayaa waanu nasteexaynaya waxaan leeyahay samir iyo iimaan allah kaa siiya ilmaha kaa tegay waana u ducaynayaa inuu bedel khayr qaba u bedelo hooyo kastoo ilmaheedu geeriyo insha allah mamada soomaaliyeed madhow madhinana namadhada soomahali mahadhooyenu madhinayn iyo maanta waha mahalin mugdihe ay la fuhururtaa iyo maanta waa mahalin mugdihe ay la fuhururtaa iyo maanta waha mahalin ilmahadeedu dhamaysu marin iyo maanta waha mahalin ilmahadeedu maraysu dhamadhaban iyo maanta waa mahalin lahemeeday mahurtadii iyo maanta waha mahalin caada hawgeenu yahay murtaax ina maanta waa mahalin caada hawgeenu yahay murtaax imideya hadeeda madaxdee dhulkahan lahaa iyo midiyahan dihide madaxdee dhulkahan lahaa murugo kama hayheso meheyd baanbar xidhan yo muluq na muruga kama hayheso meheyd baanbar xidhan yo murug muruge kama hayso meheyd kee dhinteeyo mid nuul na murugi kama hayso meheyd kee dhinteeyo nin nuul iyo maha madaxdii dhulkee waa iblays milmilan ina maha madaxdii dhulkee waa iblays milmilan iyo maha madaxdii dhulkee waa iblays milmilan imalaha muuqaadu moodeeninahanaqaan maha soomahali ragga meeshayo hururaa ina maha soomahali ragga meeshayo hururaa iyo midkan oo keena hadee oo mid oran lahaa ina hooya muruge haysan baa maanta deegi lahayd iyo midkan oo keena hadee oo mid oran lahaa way hooya muruge haysan baa maanta deegi lahayd iyo maama naxariis ilaah mawlaqayhi ku sii iyo meel kastoo hor joogto allah maalikuhu maciin aad baan kugu mahadcelinaya sucaaday meel kastoo joogto allah maalikuhu miciin sawirka ku muuqda ilmahaga mahawd ku weelay miciinka cawida rabbi maalikuhu deeq murugta iyo ciilka rabbi maalikaha masuuxo allaha mulku mahal weeye hakaha masuuxo maalig baa qorayo qadarka meelan mari karayn iimaanka qabo hojiinuhu maalin qorayugu oo maaman orahay hamuruhugo nin mahalin leyl ina maaman orahay hamuruhugo nin mahalin weyn soomaaliya loo miciin meel kastoo ku jirtaaba mahada leeyahay ilaahow maciina sii aad baan kugu mahadcelinayaa sucaad walaalo waad mahadsantahay gabayga qayrada lee fara badan iyo hinta maanta kaa dhacday inaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuun khadadka teleefoonadan kusoo noqonayna injineer bashiir sii daabal wixii maanta tacsidaa tiraayada nagala qayb qaadanaya insha allahu tacaala u naxariisanaya dhalinyaradii ka baxday jiilka soomaaliyeed halo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا بعودة هبليسة وإيد السلام ولا وأخو سلامنا ولا المعاني هل كتشوفتا مقعا ولا أنا بعودة ولا لندن أنكسر الله أنا بعودة ولا خير البدن الله كسي آد بنكوسو دوين يا سيدة قريح بدن البرامج كلا قيب قادتي أبوانا الصوماليات باتي قد عدو قيرة فربضن أي كاقبة تارنتن تهريب تغلالو آد بنكوسو دوين أنا بعود محاد إيدي أرسي محاد كلا قيب قادن محاد رند ولا الخير الله كسي
walaal marka koobaad waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun bulshada Soomaaliyeed intii ma aragta dhalinyarada taariifta ku baaba'day waxaan leeyahay ilaahay sabr iyo iimaan ha idinka siiyo adinkana barnaamijka qurux badan oo soo jeediseen waa idinkaga mahad celinaa hooyada Soomaaliyeedna meel walba ee adduunka ka joogto waxaan leeyahay hooyada Soomaaliyeed lahu waan leeyahay insha Allah waana idin mahad celinaa in badan dad badan qadka ku jira si aanan ugu daahin ilaahay hooyada Soomaaliyeed sabar ha siiyo adduunka meel kasta ay ka joogto amiin ana bruuda waad mahadsantahay walaal khayr Allah ku sii jazaaka khayr hooyo Soomaaliyeed baheedin abwaanad baheed insha Allah taala waad mahadsantahay ana bruuda walaalo qadka telefoonada ku noqona insha Allah taala halo salaam alaykum halo halo السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والعود كاغنا كرو قادة ما هتصن هكذا شوكتها محاد قال قيد قادة البرامج كل مقعانا. السلام عليكم. أنا الكيس ولا شيء نعتذر وكسرنا شرب بدنج وحنا مجاي وحنا إذا جماعة صلوات وحنا كسوا على مجال ذيك لندن جماعة جنة وحنا لا هاي هذه أتفاضل والسلام على ولا شيء قالي وحنا السلام على فنانة دين وين وحنا السلام على سعاد هذا قبلها نبغى نقول السلام عليكم دحين السلام يا وحنا الله يا والله هرت دبعت بدنا الصومالي إن السوير يستو وإنما يا بدك هو دمانا يا نولشي إني سدا سيء كل ما تي وحنا هرت أنت بمت الله ونحرسته وينكي علمه كل سقة كبنتنا الله فرج قرق وفر إلهي قلبي وذنه هقبوجي دما وحي هوي عروتي كوا سقيسام كوا دمتي نعم وحن كلا إذن لا هاي هذه يوم سنتين دمانتين وحن لا Soomaaliya iyo badkan tahriib kan aad ayuu Soomaaliya ugu farabatay waxa la dadka Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa dawlad ha ahaato ama shacab ha ahaado qof walba oo business ama wax walba hay wadanka joogo waxaan ka codsanayaa dhalinyarada yaryar adduunka dhalinyarada lagu isticmaalo adduun waxa jira wadamo waxa jira dhalinyaro waayay oo odayaasha waayeelada bas ay ka shaqeeyaan oo la yihiin dhalinyarada shaqo waayay haysan dhalinyaro yaryar wadamadaas oo indha yartay waxaas marka waxaan ka codsanaynaa dadka Soomaaliyeed dhalinyarada hadii wadanka laga dambeeyo soo gaar ma qaban karo wadanka kama qaban karo Allah yaciisك aad baad u maadsantahay waxaan leeyahay maalkaysa walaal marka waxaan leeyahay dhalinyarada yaryar waa ashtiinka wadanka wadan aan dhalinyaro lahayn wax adduunka in dawaa wax uu qabsan karo ma jirto hal la xoojiyo dhalinyarada yaryar in dadka businesska ay shaqo siiyaan in ay dadka dawladda ay membership ugu weyn ay siiyaan dhalinyarada intay qabato waad mahadsantahay walaal waad mahadsantahay waraxmatullahi wabarakaatu aad baad mahadsantahay waxaan doonayaa shukrinan ku weydiiyo dhalinyaradu way soo socotaa soo adduunkan waxa ka dhaadhacsan caalamka inaan dawlad nahay oo la aqoonsaday maxay tahriibtu u joojiyaan baadida fikradaada haddaan ku siiyo walaal min hooyada dareemaysa wax moogta oo gubanaysa oo ciil hayo laakiin awood hayn waa mahadsantahay naarkiisa horta dawlad anima waa arkabo hooyo ilmihii waa weysay xoolihii waa weysay xoolihii maadaama ay weysay ee ilmihiina weysay horta waxaa loo baahanya horta hala soo dhaweeyey waaga cusub loo yarow qabanaa caruurtaas xaquuqdooda u doodeynaa waaga cusub hala soo dhaweeyo xaquuqda hooyadii lacagtii iyo maalkii ay wiilkiina ee weysay inaan u doodno waay oo Soomaalina wax iskugu darto oo xaqooda loo soo dhiciyo laakiin wax dawladda aniga ma arko aniga sidaan u arko ma san sahraadna soo arko in wadanka dawlad baan leeyahay calan baan leeyahay adduunka meel walba ka baqanaya dawladii waa kuwa dawladdu u yeeray waa tal casmay waa tamarti la qaad waa tawarqad la saxeexayo dhalinyarada waa ta dhamaanayso qof wadan dhistaan wadan kale ku duulay waa yani wad la socota siyaasadda Soomaalida maanta halkay maraysi heerkan kaga jirna baalka taariikhda amaale aad iyo aad baad u mahadsantahay markoo waadi mar labaad waan kaaga mahad celinayaa qalbigaaga wanaagsan dadnimadaada sidaad ummadda Soomaaliyeed dhibka haysta aad uga mulugooto mar walba oo aad usoo hadba wixii dhibaatadii socota aad ummadda usoo bandhigto inay kula qaybsadaan aad baad u mahadsantahay kaaga mahad celinaya waa midda labaad wax dawlad la yiraahdo ma jirto dawladda waa la haystaa Soomaali oo dhan ayaa la haystaa dawlad hadday jirto dawlad waynu ahaan jiray calaamadii dawladana waa la yaqaan wax dawlad oo jirta haba yaraatee ma jirto magaciyaal baynu nahay taa markaan ka gudbo waxaan u gudbayaa
ciyaalada waxaa soo waalaya wiil yaroo intuu meel isku soo sawiro oranaya iyo gaari aanu lahayn oo nin gaari leeyahay halkaasaan ku noolahay ilaahay ka boqo ilmaha yaryar been ha u sheeginina yurub waxa yaalla waynu ognahay qaaro jeelal bay ku jiraan dumarka stress baa wada haya dhibaata ina haysata shaqa ma taalo waxaynu haysanaa ma jirto dalkeeni meel ka fiican ma jiro ilaahay dalkeena nabad haynoo ka dhigay yurub ama joog ama maraykan joog ama North America joogo ilmaha ka daaya dhibka iyo sawiradaad facebookyada u dhigaysaan aad u leedihiin halkaasaan ku noolahay rooba ma sanad maalin laguma dhisine dad baale guryaha isku soo sawiraysan iyo gawaarida isku soo sawiraysan intaasaan idin leeyahay dadkiina qurbaha soo galay الله يعزك أد بان مهدلنا سهرة وحن كنا قلنا أبوان كي عنكها المارتة إن شاء الله تعالى بالهستا قيرة لا مروجة لا محاه هو يهرد ويدي إلى دعوة دولار عندكم هتصل إن شاء الله تعالى هذه موية تعريبتو قربوها قردام موية هدانا هالسيو ديباتو تدكي كما هول يريستو barbaarteeni uleelo hilinka qaade kuwa hanti loo aftuubay kuwa hoganaya jeelka miyaydan wararkaynin miyaan isagoo hubaala miyaan dhalinyaro helaynin miyaan hoos loogu sheegin miyaydan wararkahaynin miyaan isagoo hubaala miyaan dhalinyaro helaynin miyaan hoos loogu sheegin masiibada la hooli waayay xilfaha ummadii u qaatay dhibtaahii kicisay uunka mid weeyaan sii huraysa kuwa hanfigiyo kulaylka saxaraha heeti waayay kuwa marinkii abaabo haraadu meel ku laayay miyaydan wararkahaynin miyaan isagoo hubaala miyaan dhalinyaro helaynin miyaan hoos loogu sheegin maxay habla nacab u hertay maxay haadan ka tuurtay muxuu horar beer ka gooyay miyaydan wararkaynin miyaydan wararkaynin miyaan isagoo hubaala miyaan dhalinyaro helaynin miyaan hoos loogu sheegin maxay hanad hooyo wayday maxay hurda seexa wayday maxay ilmahay bibiqlaysay miyaydan wararkahaynin aad baan ugu mahadcelinayaa fanaanka da-da yar leh ee qiirada badan ee hadladiisa iyo murtidiisa ku dhantahay heestan maanta aan idiin soo bandhigay iyo midhaha quruxda badan leh maqaal iyo akhris baa labadaba kaga dhiratay insha allahu tacaala dhalinyaradii dhammaatay waa hadalku waa dhan iyo murtiduna waa xidhan tahay sucaad waxay haysaa gabay aada iyo aada xagga ragga iyo madaxda ku saabsan soomaaliyeed ee maanta dunidii quusatay ee yaabtay raggan marba dhan diyaarad usii raacaya warqadaha saxiixaya maxay wadaan saxiixayaan siidaan sucaadi waxaa la yidhahdaa gabayga rag ma garan waayeen raggayga xaggee galeen waxbaa ii gubahayaan iyagoo garaaha iska xiran na waxbaa ii gubahayaan iyagoo garay iska xiran waxaan gocanahayo raggahaygoonu deehidana nama garan waayine raggeeni xaggee galeen gambada ii xidhan caqliga hagabiska hayiri waxaan ka gilgilayo gaaluftiihidanahay waxaan ka gilgilanay gaaluftiihidanahay goblanka iyo geeridaha joogta goohur walbaba cadowgu guuleystaye geesaha hay fadhiyo nama garan waayine raggeeni xaggee galeen
ubadkan afrika hanku gaadahayaaniga hawraacin ubadkan afrika hanku gaadahayaaniga hawraacin carabtu googohoysaye geeri lagu xukumay carabtu googohoysaye geeri lagu xukumay keliyaha iyo beherka wadnihe ka guuranayaan nama gaaran wahayne rageeni xaggee galeen ma garan waayne raggeena halkay galeen hooyo goola soo howday ceelkeedu gahabus yahay inaa hooya goola soo howday ceelkee gabaw ugu helay gaajada lacaloohoban gooriheegeedu gaalay xanuun daawo gaadan weheyday cusba hataa laahan helayn gambaadu caddahaye saahahaygee god loohuga riiday gaabana aan hahaysan gob lahaan yororkee fadhida nama gaaran waayine ragayhege xaggee galeen ma garan waayine ragayhege xaggee galeen gabanaan hay heesane gaalafyo hururka gargaarka u baahanayo dowlad gobanima unku gees maraya ay guhaadiyeen nama gaaran wahayine rageeni xaggee galeen gabibabaha fadhiyahaye garwaaqsihen gabibabaha fadhiyahayen garwaaqsiherin gabaxyire gabowga goohoodkee cadyahay dhammaan gaaja ohoyahaya geeyigii kolkuu fadhiyey ilmaadu gabax lehaysaye guhahada qaba xaqiisi la guuranaye loogu gaaray daraac xaqiisi la gooranaye loogu gaaray gujada daryeelkii waahayay iyo dowlad lagu hirtaa iyo ciidankii gahaja ku gahaboobay gacalayaal nama gaaran waahayine rageeni xaggee galeen ma garan waayne raggeen halkay galeen aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa sucaad iyo gabayga aad iyo aad u qiirada badan insha allahu tacaala kaasaan kusoo khatimayna maadaama barnaamijka guntiga gabagabadii ku jiro marka hore waxaan u mahadcelinayaa dhammaan waxaan barnaamijkan idin fududeysay kambaniga caalamiga gold furniture oo ku yaala Croydon kaasoo idin soo bandhigi doona insha allahu tacaala alaabta guryaha oo aad u qurux badan ila booqdo soo arka idinka indhihiina ku arki doona hadday noqoto sariir iyo hadday noqoto fadhi iyo hadday noqoto hurdo iyo designka guryahoo dhan waana kambani aad iyo aad u qurux badan dadkuna indhahooda u bogteen aniguna barnaamijkayga aan siiyey qurux daraadiis insha allahu tacaala shukri guntiga gabagadan joogna waa maxaad kusoo khatimaysa yaad salaamaysa yaad maxaad iska tacsi u diraysa waan xidhaynaa barnaamijka markaas waxaan tacsi u dirayaa waalidiintan oo ilmaha ka dhintay kulli waalidiinta dhan oo meelahan ilmahooda ku dhintay sabar iyo iimaan allah ka siiyo inaa lillahi wa inaa raajicuun inaa lillahi wa inaa raajicuun sahra walaalo guntiga gabagadan joognaa walaalo amaanado mar labaad mar saddexaad ba mahadsan waxaan tacsi u dirayaa hooyooyinkii halka ilmahooda ku waayay ilaahay samir iyo iimaan idinka siiyo cawil khayr qabana idinku bedelo waxaan kaloo dardaaran u dirayaa Soomaaliye midnimo ma ku noqon kartaan qabiil qaran ma noqdo reer qurac iyo reer gansa hataa ka baxdaan oo Soomaaliye isku afkaartiin oo isku dalbaatiin oo isku diin baatiin oo madabkiinu waa isku mid waxaad ku kala duwantiin ma jirto waxaadeen qaran ku weydeena qabiil ku heli meesaan midnimo iyo yurud umbad wax ku noqon kartaa allah ciise aad masaaro u mahadcelinaya faadmo walaaladuna waxaan kusoo gabagabeeyay inaa lillahi wa inaa ilaahi raajicuun ilmihii ku dhintay halkaas oo aan aad uga wada xunnahay waalidiintii dhalay ilaahay waxaan uga baryaynaa in qalbigooda ilaahay u adkeeyo in ilaahay naxariistii janno ayagana ka waraabiyo آمين والله أدينا إلهي السمر يمنا كاس إلمها قد أنت ولا وجنة إلهي كل حق يصل إلهي معلم بكوس وقاد دونا سعادة والله إن بدن بعد أويدي قلبك وانقرنا يا وانقرنا هو يدي معان أوشوت مقالة الأسعانات الله يسلمك الله هو يأد بكوس سلام لك أسمع كاتش عليه
الله بركة waxaan tacsi u dirayaa dhammaan Soomaaliyeed meel kasta ay joogto saqiir iyo kabiir waxaan leeyahay dadka tahriibta ku jiro dib u noqda dalkiina nimcata la dib ugu noqda هذا wax maqlayaan weeyaan daawadayaal horta marka hore waxaan u mahadcelinayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala dhamaanteen maanta barnaamijkeena sida qurux badan nagu dhamaaday waxaan u mahadcelinayaa abwaanka caanka ah Alta insha Allah ta'ala isna barnaamijkan ugu daaqay TV-ga caalamka Somali Cable intii barnaamijkayga la soo qayb qaadatay iyo Maryan oo tiri daahir cali soo waaga cusub hal laga warhayo waayo waa nin xaqiiqda mar walba soo bandhiga raadiya aad baan ugu mahadcelinayaa insha Allah ta'ala waxaan u mahadcelinayaa gabdhaha Soomaaliyeed aad iyo aad u qurux badan barnaamijka maanta u soo qooray safarada dhaadheer u soo maray haday noqoto Saara Cali Khaatimo iyo Faaduma Maxamed Cali iyo Sucaadba iyo waliba Shukriba dhamaantood baan ugu idin jecel waa mahadsantiin boqolkiiba ilaahay waxaan ka rajeynayaa horta marka inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun in ilaahay qalbigoodii hooyo walba ilmaheedii ka maqay maanta iyo aabo walba يا هبرر والبي أيه والبي عدل بالمكان دنتي وما أنت تهريب تاكل دنتي إنه إلهي سبحانه وتعالى ورت إلهي كم دويه وحفي عنه إن حسبي الله ونعم الوكيل كلمة ده أنا مرة والبنا أفكوا هايسان قفل بظلم لقى قاضي أو حقي سلقاتي هدينا الله شو داراتي هدي جابته ويسوي هدي سجد عفنا عروتي سوي من يسا وأنا قاعد نشعل وحنا عليه فرصة ميقانك محمد يرى إيه واللي بشير يا مامك صومالي كابل وأنا قاعد أمل كيسا أنت البرامج كنا كل مدن واحد كنت جاي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته shirkadda alaabta guryaha Inigor Home Furniture waxa ay sameynaysaa qiimo dhimis ballaaran oo ah dhammaan alaabta guryaha qiimo dhimistan ayaa socod doonta bilo kooban oo kaliya waxa ay shirkaddu qiimo dhimis ku sameysay sida sariiraha jiifka oo ka bilaabanaya 1299 baan oo kaliya sariiraha loogu talagalay qofka kaliya oo leh meel lagu kaydsado ayaa waxa ay ka bilaabanayaan 299 gani oo kaliya soofaha waxa xilligan laga dhigay 1300 oo baan kaliya halka alaabta qolka caruurta lagaga dhigay 999 baan oo kaliya shirkadda Inigor Home Furniture waxa ay sameynaysaa qiimo dhimis gaaraya ilaa iyo 60% dhammaan alaabta guryaha waxa lacag dulsaar ah ama riba lagama qaadi doono waxaana lacagta u dhiibi doontaa si tartiib ama waliba bilbil ah haddaba hore u gaar oo booqo xarunta dukaanka Inigor Home Furniture oo ku taala degmada Croydon ee koonfur galbeed magaalada London wixii faahfaahinta dheeraada fadlan kala xiriir ciwaanada shaashada kaaga muuqda barnaamijka doorka ama hal daadihi iyo u tahay barnaamijka doorka ama hal daadihi iyo u tahay wixii xaq la dahabe daha uga rogtaa wixii xaq la dahabe doorka uga rogtaa dumarka Soomaaliyeed way ku diirsadaan dumarka Soomaaliyeed way ku diirsadaan Allah daaye ama hal waynu daahawana barnaamijka doorka ama hal daadihi iyo u tahay barnaamijka doorka ama hal daadihi iyo u tahay wixii xaq la dahabe daha uga rogtaa wixii xaq la dahabe doorka uga rogtaa dumarka Soomaaliyeed way ku diirsadaan dumarka Soomaaliyeed way ku diirsadaan Allah daaye ama hal waynu daahawana barnaamijka من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين طاودياش قيمها يقدر أنت مدن ميل كستو يقدر ونسن هودا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبرامج كدور كاوينكي واحترك بالشدة برامج كاسو تضباط والبقرة سعطان هودا صومالي كيبل يعني دوريا مالكيسا إن شاء الله تعالى اسكو ضيا برامج بقى كي تاغنا دين صوم بندق إن شاء الله تعالى حتى بدا وضيا البرامج كتضباط كانوا حنكها لسنبوك وفيسبوك دين صوم إن شاء الله تعالى تحسيدي فوش وحمادي تبدي وطبانكي بشي maalintii April dhacday dhalinyaradii farabadnaa Soomaaliyeed ku geeriyooday baddaasi maxay tahay Masar
إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ضائقة الموت ولا تدري نفس بأي أرض تموت قفل بإله مرة سبحانه وتعالى جيرده وقرن بيش وكل ما قفنا ما وقال لكن ولي وحل الموضوع لأن يرد إن التهريب تأين ودق الدلولين ولي بضاها يسكسوا ضادنا يعني تاسو دباتوين ما أنت شعب الصومال وكان أنت هو ينفر بدل ما أنت قبل انتاجيهن إلا يمكن ما على الدولة الصومالية ومثل شعب كده وصل برنامج بحضي أما قضية ذاك هذا الشيء إنا لله وإنا إليه راجعون ضاود البرامج كان ما أنت إن شاء الله تعالى مرقدة فالبدل وحي قال قيب قادنا قبل الصومالية وما أنت هو يوينه ومرقدة صوّدت هابطي قار قبيا يقار عروتودي هالكن كل إنتان يكبا marka insha Allah taala waxay gala qayb qaadanaysaa Sahra Cali waa Sahra Khaatimo dhamaantiin baa wada garanaysaan iyo Faadimo Maxamed Cali oo hooyada Soomaaliyeed ilmaheeda ayaa dhawto iyadoo bishan May soo socota foodeen ku soo ay ilmaheeda lagu dilay wadankan UK iyo Sucaad Ismaaciil oo wada garanaysaan abwaanad weyn oo Soomaaliyeed oo codkeeda baxsan maanta insha Allah taala barnaamijka u soo deeqday iyo waliba Shukri Axmed oo iyaduna hooyo Soomaaliyeed oo arinta maanta ka murugootay insha Allah taala gabdhaha Soomaaliyeed maanta barnaamijka doorka haweenka waxtarka bulshada bay gala qayb qaadanaya anagoo si gaar ah wada mahad celinaya ku meel fog iga soo safray إلهي يعني جزاه اللهم خيرا يعني خطوة يسوق هذا المنطقة خطوة أدو في عن مدام المنطقة وفرنا التحسين مركا وحن كسر دويني برامج كذا هذا أدو قرب بدن قبلها صوماليات كسر دوهم مركو قرص السعادة نسوي دوي السعادة كسر برامج كدور كوين كوحتر ولا الوضوء هاي أمالي عادي أد بدو ما هتصلتها هاي إنا لله وإنا إله راجعون لما صومالي وين وأنا قلت عسينا يا وات كيجي يضل داوري كيريودي أدنى وأنا قلت هراي سنة waxaan soo rajeynayaa inta soo socota inay dib u noqdaan aad baan ugu mahadcelinaya Sucaad waa Faadimo Maxamed Faadimo wada garanaysan inankeeda dhintay marka oo hooyo wax dareemaysa maanta iyadoo Faadimo ku soo barnaamijka walaalo waa mahadsantahay amaalkaysi mar walba waxaad ka hadashaa dhibaatada Soomaaliyeed oo meel walba ka dhacda wadankan UK aan joogno gudihiisa iyo banaankiisaba inna lillahi wa inna ilaahi raaji'uun caruurtii yareereed aan wada dhalnay oo maxay ahayd markay jaamacadihii ka baxeen hooyo kastaba ay gablantay aad iyo aad feel beenan dareemayna aad iyo aad waxaan dawladda Soomaaliyeed meel kasto joogto aan ka cabanaynaa hadaan ay hooyooyinkii mar walbana aan ka cabanaa in caruurta tahriibta laga hor istaago الله يعيسك وعلى أدب فاضل كلمة علني أن أسود الميكروفون كندرا سهرة علي سهر كسر برامج كدور كون كولا معنا أظن هذا وكله هاي إنا لله وإنا إليه غيري فوش حميد كد علي المهير رأي الصومالية كلها اللي جمي بدها عاد بنقول تعسين يا أذوقنا أمل وحتى هاي كبر أذوق قيمة بينها دي أذوق كلو تبين اللي هي لها ummaddu waa kuu siman tahay Soomaalinimadu waa kuu siman tahay dadkaaga inaad horumar gaarsiisid aad wixii dhibo markaa taagan aad ka hadashid ayaa diyaar u tahay Ilaahay adigana heshiiska ka saaray Allah يعيسك والسهر aad baan kugu mahadcelinayaa shukr ku soo barnaamijka wal macaan adigoo culus wali balka noo soo maray wal khayr Allah ku siiyo waa mahadsantahay maalkiisa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun caruurtii meesha ku dhimatay samar iyo iimaan Allah ka sii waalidiintooda marka barnaamijkana caawa ديارو الله يعيسك برامج كانوا بيلعبوا أنا داود البرامج كدور كوين كي واحترك بالشدة وحى فوضى كان بني عالمي إنقل فيلم كان بني أصلا كان بني عالمية إن شاء الله تعالى حيسين سنة خلاص عتان برامج كدور كوين كي حيسين تا صومالي كيبل oo soo saara dhamaan alaabta qurxinta guryaha haday noqoto furniture haday noqoto sariiro haday noqoto kuraasi iyo haday noqoto qadaba idinka arki doona ila booqda insha Allah taala hadaba daawadayaal barnaamijkan gudgaleyna insha Allah taala barnaamijkaas oo maanta aanu ka hadlayno waa barnaamij dhibaato fara badan ba gabdhaha Soomaaliyeed iyo wiilasha Soomaaliyeed ba adduunka haysata gaasata waliba hooyada waa يعني تمانتا وطالع وندريمة إن بدنا يداون سمانتين أويسو أنا أقول له هبلها دنتي الله نحرستي قارن وحسوها هم بحتى كتير قار عن صاحب لها وفيسبوك عن صاحب كلها بكتير اللي يراوي اللي قبل بقى وأنت يلسع عشرين شهر دبتو ينكود مركز سوى سفرين حتى يلسع عشرين شهر أنت أمل ونصاص عنا تهريب تا واحد كتير جنا ما قرينا شامع عذا مقبل حتى يسكولا لما وضن كي واحد ترتا واحد يسكوسيا شقة قلا يسكوسيا شامع عذا واحد براتيلو متش لا لوش بقى بحيا واحد مدة ما هي إنه غير بنوه إن هي مركا أرنتا ينتا مركا أركب وتشجد والله أد بنوجو مرجودة إلهي هون حريستو جنة الفردوس أكورابيدي هو دمان دلنا يرد وضع دمتة الصوماليات تعسيتي رايان لو صدر هو ده الصومالي كي بران لا إلهي هيدين نحريستو وحنا أقصنا يدوكو بدلو ده كل قف ما أنت دعوانا يا يوتيوب ده ودعوانا إنسان ضميرك وعجيب قف بني آدم مركا لقنشري وحنوصل ضدنا هذي لقنشري ما حنوصل مركا إلهي وحن كرجنيه قف ما أنت ضمير له أو نرش الدنيا ما أنت يو إيه بني آدمكو ها ما أنت آخر ما حد بيسا مسؤولية مركا قفكو قاضي قف البحل بقف صار هذا ما أنت حل إيدي بتحل كذا أنا كسب بحن كرسي أنا شعل هذا ما تشعلي
laakiin bini aadamka ilaahay damiirkooda soo wada celiyo Soomaalina ilaahay ka wada dhigay qalbigooda mid intaan ku jeedna qabiil iyo qolo iyo qolan sunay kana wax tarayaan adduunka wax ku tareen oo lagu sheegay quraanka inuu ka qaadaneen laakiin maanta aynu taalo Soomaalidu meel arinta ugu soo wada jeesato hooyooyinka qabyaalad ma yaqaanaan ilmuhu dhinteena qof walba aniga soo yaani qiiroonaya waa ilmaha kale ilmada maanta tahriibtan soo arkay dhintay waxa ka daran kuwa soo socda iyo waxa Facebook la soo gelinay kulleen ka soo haajira wadanka wax ma yaalaan dhibaato way taala qabiil baa yaalo dagaal sokeeya jira laakiin dhalinyaradaas badda ku dhimay rasuulka kaleey salaatu wasalaam waxa ku ducaysan jiray biyaha iyo dabka labadaas ku ducaysan jiray yaani dabaal la galo oo biyo lagu dhinto iyo in dab gubo labadaas rasuulka kaleey salaatu wasalaam ku ducaysan jiray labadiba maanta Soomaalidu baad xitaa waxaan tacsiinay family-gii Soomaaliya lagu gubay todobada reer caruur iyo hooyadood indhaalayd ee la gubay ee guriga dhan lagu ooleeytaan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun hadaba barnaamijka inta gabagabin waxaanu galeynaa video clip haduu Bashiir inoo diyaariyay oo bal ila dhageysta insha Allah ta'ala waa almarta waa fanaan daayir abwaan daayir oo Soomaaliyeed oo aad iyo aad u gabiya يعني داديس iyo halkay ka taagantay maanta Soomaalimaduna ay la dhageysan doontaan arinta waxaan u soo bandhigayaa hooyo walba maanta ilmaheeda ka maqan yahay iyo dhalinyarada soo tahriibaysa bal inay heesta wax ku qaataan waa hadal iyo qoraal insha Allah ta'ala aad baan ugu mahadcelinayaa injineerada hawsha isku aadiya maamulka Soomaaliya Cable insha Allah ta'ala adima weeyaan taariibtu qorbuhu hagardaama weeye haddana halisiyo dhibaato dadkii kama hawl yaraysto barbaarteennii huleelo hilinka qaade kuwa hanti loo aftuubay kuwa hoganaya jeelka miyaydan wararkaynin miyaan isagoo hubaala miyaan dhalinyaro helaynin miyaan hoos loogu sheegin miyaydan wararka haynin miyaan isagoo hubaala miyaan dhalinyaro helaynin miyaan hoos loogu sheegin masiibada la hooli waayay hilfaha ummadii u qaatay dhibtaahay kicisayuunka mid weeyaan sii huraysa kuwa hanfigiyo kulaylka saxaraha heeti waayay kuwa marinkii abaabo haraadu meel ku laayay miyaydan wararka haynin miyaan isagoo hubaala miyaan dhalinyaro helaynin miyaan hoos loogu sheegin maxay habla nacab u hertay maxay haadan ka tuurtay muxuu horar beer ka gooyay miyaydan wararkaynin miyaydan wararkaynin miyaan isagoo hubaala hoojin maalin qorayugu oo maaman orahay hamuruhugonin mahalin leyl ila maaman orahay hamuruhugonin mahalin weyn Soomaaliya loo miceen meel kastoo ku jirtaa ma hada leeyahay raaxo maceen nasiib aad baan ku mahadcelinayaa Sucaad walaalo wad mahadsantahay gabaga qeyrada leh fara badan iyo inta maanta ka dhacday inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun khadka telefoonada ku soo noqonayna injineer Bashiir sida bal wixii maanta tacsidaad tiraayada laga qayb qaadanay insha Allah ta'ala نحرسنا dhalinyarada ka baxday jiilka Soomaaliyeed halo salaam alaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا بعودة هذا وإذن السلام ولا أوكي سلامنا ولا المعاني هل كتشوفتا مقعة ولا أنا بعودة ولا لندن أنكسر الله أنا بعودة ولا خير البضن الله كسي أدبن كوسو دوين يا سيد قريح بدل البرامج كلا قيب قادتي أبوانا الصوماليات باتي قد عدو قيرة فربضن أي كاقبة تارنتن تهريب تولالو أدبن كوسو دوين أنا بعود محاد إدي أرسي محاد يقلا قيب قادن محاد رنلد ولا الخير الله كسي ولا المركة كوباد وحان ليا إنا لله وإنا إليه راجعون بالشدة الصوماليات انتي ما أركت دلنيرة التهريب تكوب بعضي نعم وحان ليا إلهي صبري إيمان هايدين كسيو آمين هذين كان برنامج كقروح بدن وصوت شيرسين وايدين كجمع هاد علينا ويدا الصوماليات نميل والبيت دونك كتشوكتو وحان ليا هاي
hooyada Soomaaliyeed mir lahu waan leeyahay insha Allah waana idin mahad celinaa in badan dad badana qadka ku jira si aanan ugu daahin ilaahay hooyada Soomaaliyeed sabar ha siiyo adduunka meel kasta ay ka joogto amiin ana bruuda waad mahadsantahay walaal khayr Allah ku soo jazakallahu khayr hooyada Soomaaliyeed baahidin abwaanad baahid insha Allah ta'ala waana mahadsantahay ana bruuda walaalo qadka telefoonada ku noqona insha Allah ta'ala halo assalamu alaykum halo halo السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والعدك أنا كرو قاضي ضم هتصن هكذا شوكتها محاد قال قيد قاضي البرامج كل مقعنا. السلام عليكم. أنا الكيس ولا شيء نعتذر وكسر نشرب بلج وحنا مقعي وحنا إذا جماعة صلوات وحنا كسر على مجال ذيك لندن جماعة جنة وحنا لا هاي هذه أتفاضل والسلام ولا شيء قالي وحنا السلام يا فنانة دين وين وحنا السلام يا سعاد هذا قبلها نقول السلام عليكم صدحنا السلام يا وحنا الله والله هرت دبات بدنا Soomaali meel walba aswar jirto oo ilmaheena badda ku dhamaanayo oo noloshii sidaas ay ku dhamaatay waxaan la yaabay inta dhimatay Allah u naxariisto hooyooyinkii ay ilmihii ka saqay ka dhintaan Allah faraj qaar qabo furo ilaahay qalbigoodana ha qaboojiyo dhamaan wixii hooyo oo caruurteeda ka wada shaqeysay ama ka wada dhimatay waxaan kaloo idin leeyahay aad iyo aad ay u mahadsantihiin dhammaantiin waxaan leeyahay Soomaaliya iyo baddan tahriibkan aad ayuu Soomaaliya ugu farabatay waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa dawlad ha ahaato ama shacab ha ahaado qof walba oo business ama wax walba hay waddanka jooga waxaan ka codsanayaa dhalinyarada yaryar adduunka dhalinyara lagu isticmaalo adduun waxa jira wadamo waxa jira dhalinyaro waayay oo odayaasha waayeelada bas ay ka shaqeeyaan oo la yihiin dhalinyarada shaqo waayay haysan dhalinyaro yaryar wadamadaas oo indha yartay waxaas marka waxaan ka codsanaynaa dadka Soomaaliyeed dhalinyarada hadii wadanka laga dambeeyo soo gaab ma qaban karo wadanka kama qaban karo Allah ya ciise kor aad baad u maadsantahay waxaan leeyahay maalkaysa walaal marka waxaan leeyahay dhalinyarada yaryar waa ashtiinka wadanka wadan aan dhalinyaro lahayn wax adduunka in dawaal wax uu qabsan karo ma jirto hal la xoojiyo dhalinyarada yaryar in dadka businesska ay shaqo siiyaan in ay dadka dawladda ay membershipka ugu weyn ay siiyaan dhalinyarada intay qabato waad mahadsantahay waraxmatullahi wabarakaatu aad baad mahadsantahay waxaan doonayaa shukri inaan ku weydiiyo dhalinyarada way soo socotaa adduunkana waxa ka dhaadhacsan caalamka inaan dawlad nahay oo la aqoonsaday maxay tahriibta u joojin waayeen baadiga fikradaada haddaan ku siiyo walaal min hooyaata dareemaysa wax moogta oo gubanaysa oo ciil hayo laakiin awood hayn waa mahadsantahay anaadkiisa horta dawlad animaba arkabo hooyo ilmihii waa weysay xoolihii waa weysay xoolihii maadaama ay weysay ee ilmihiina weysay horta waxaa loo baahanya horta hala soo dhaweeyey waaga cusub looyarow qabana caruurtaas xaquuqdooda u doodeynaa waaga cusub hala soo dhaweeyo xaquuqda hooyadii lacagtii iyo maalkii ay wiilkiina ee weysay inaan u doodno waay oo Soomaalina wax iskugu darto oo xaqooda loo soo dhiciyo laakiin wax dawlad aniga ma arko aniga sidaan u arko ma san sahar adna qado arko inuu wadanka dawlad baan leeyahay calan baan leeyahay adduunka meel walba ka baqanaya dawladii waa ku dawladu u yeeray waa ta la casmay waa ta marti la qaad waa ta warqad la saxeexayo dhalinyarada waa ta dhamaanayso qof wadan dhistaana wadan kale ku duulay waa yani ma socota siyaasadda Soomaalida maanta halkay maraysi heerkan ka jirna baalka taariikhda amaale aad iyo aad baad u mahadsantahay mar koowaad iyo mar labaad waan kaaga mahadcelinayaa qalbigaaga wanaagsan dadnimadaada sidaad ummadda Soomaaliyeed dhibka haysta aad uga mulugooto mar walba oo aad usoo hadba wixii dhibaatadii socota aad ummadda usoo bandhigto inay kula qaybsadaan aad baad u mahadsantahay waan kaaga mahadcelinaya waa midda labaad wax dawlad la yiraahdaa ma jirto dawladda waa la haystaa Soomaali oo dhan ayaa la haystaa dawlad hadday jirto dawlad waynu ahaan jiraa calaamadii dawladana waa la yaqaanay wax dawladoo jirta haba yaraatee ma jirto magaciyaal baynu nahay taa markaan ka gudbo waxaan u gudbayaa ciyaalada waxaa soo waalaya wiil yaroo intuu meel isku soo sawiro oranaya iyo gaari aanu lahayn oo nin gaari leeyahay halkaasaan ku noolahay ilaahay ka boqo ilmaha yaryar been ha u sheeginina yurub waxa yaalla waynu ognahay qaaro jeelal bay ku jiraan
dumarka stress baa wada haya dhibaata ina haysata shaqa ma taalo waxaynu haysanaa ma jirto dalkeeni meel ka fiican ma jiro ilaahay dalkeena nabad haynoo ka dhigay Europe ama jooga ama Mareykan jooga ama North America joogo ilmaha ka daaya dhibka iyo sawiradaad Facebook-yada u dhigaysaan aad u leedihiin halkaas aan ku noolahay Roma ma sanad maalin laguma dhisin dad baale guryaha isku soo sawiraysan iyo gawaarida isku soo sawiraysan intaasaan dilay dadkiina qurbaha soo galay الله يعزك aad baan mahadcelinayaa Sahra waxaan ku noqonaynaa abwaankii caanka ahaa almaarte insha Allah taala bal heesta qeyrada leh ee murugada leh maxaa hooyo halad weyday ila daawada walaal idinku mahadsan insha Allah taala adima weeyaan taribtu qurbuhu agardama weeye haddana halisiyo dhibaato dadkii kama hawl yaraysto barbaarteennii huleelo hilinka qaade kuwa hanti loo aftuubay kuwa hoganaya jeelka miyaydan wararkaynin miyaan isagoo hubaala miyaan dhalinyaroo helaynin miyaan hoos loogu sheegin miyaydan wararka haynin miyaan isagoo hubaala miyaan dhalinyaroo helaynin miyaan hoos loogu sheegin masiibada la hooli waayay hilfaha ummadii u qaatay dhibtaahii kicisayuunka mid weeyaan sii huraysa kuwa hanfigiyo kulaylka saxaraha heeti waayay kuwa marinkii abaabo haraaduu meel ku laayay miyaydan wararka haynin miyaan isagoo hubaala miyaan dhalinyaroo helaynin miyaan hoos loogu sheegin maxay habla nacab u hertay maxay haadan ka tuurtay muxuu horar beer ka gooyay miyaydan wararkaynin miyaydan wararkaynin miyaan isagoo hubaala miyaan dhalinyaroo helaynin miyaan hoos loogu sheegin maxay hanad hooyo weyday maxay hurda seexa weyday maxay ilmahay bibiqlaysay miyaydan wararka haynin dawladdu ka jooji fiisayaasha caruuraha dibadda u baxaya iyo mid lugeed iyo mid dabadeed mid diyaaradeedba waad maasantay walaal fikradaada saliimka insha Allah taala hooyo Soomaaliyeed baa waxay ku soo gabagabaysay baasaboorada dhalinyarada laga qaado tahriibta laga joojiyo laakiin dhalinyaradu waxay cabanayaan marka Ilaahay baa idinku dhashay hooyooyin baa wada tiinay oo aqli baynu leenahay markay caruurtaada iskuulka dhamayso ay jaamacad ay ka baxdo intaas lacag lagu soo galay meesha positionka fadhiisan lahayd ama mid qurbaha ka yimid oo shidad sita ama ilmo wasaaqadu dhalay meeshiisa la sidaas mina calool way ka soo yaaceen khadka xiga insha Allah taala halo السلام عليكم codku gaaban yahay injineer Bashiir laakiin insha Allah ku maqlay halo السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أمل واكو سلامي aad baad codku daciif laakiin waan ku maqlay ku soo barnaamijku halkaad ka soo leeyahay walaal macaani amalay waxa kula hadlayo waa Maryan Dhibe xoog baan ku salaamay aad baan ku soo dhaweynaya Maryan walaalo waan maqlay waan ku gartay buuana Soomaaliyeed baad ahayd adiguna Maryan ay ku soo dhaw barnaamijka walaalo maxaad igala qayb qaadan lahayd walaal waxaan kaala qayb qaadan lahaa horta intii dhimatay Allah u naxariisto inta hartayna Ilaahay ha inoo xafido صح arrin baan jirta inaan hadda wixii cidii daawanaysay idinkaba idinku baraarujiyo نعم nin baa jira la yiraahdo Daahir Cali Sow oo soo bandhigay dadka wax tahriibiyo Qaahira kuwa jooga kuwa Soomaaliya jooga kuwa Liibiya jooga iyo meel walba joogaan hadda yiri dagaal baan la galeynaa oo shacabka Soomaaliyeed ka dalbaday gacan ninkaas wuxuu yiri internet baan furi doonaa habeen horaan dhageysanahay meel internet oo halkeer oo telefisyoonka aan galay aan ka arkay in badan oo dadka tahriibiyada magacyadoodii iyo sawiradoodiina uu soo bandhigay
marka arrintaa xoog ha loola socdo ninkaasna nin soomaaliya oo aada u dagaalamaya weeye waxaan jeclahay inay dadka soomaaliyeed ninkaa la shaqeeyaan sida xididada loogu siibo dadka wax tahriibiya ma garatay si fiican baan u gartay maranay haye si fiican waayaa cusub arrintaa inaad ogtahaa waayaa cusub bravo caleyk waa sidaa weeye amaaley arrintaa waxa weeye xoogga in la saaro oo xoogga la saaro oo ninkaa lala shaqeeyo oo dad muwaadiniina aada baan ugu faraxsanay dad damiir leh inay soomaaliya ku jiraan ninkaasoo aada buu ii qiiro geliyey arrintaa mataqaana ummadda soomaaliyeed hana la isgaarsiiyo wixii laga qaban karo iyo wixii lala shaqayn karana maaragta ha lagu dadaalo ninkaa inaa arrinta sida nimankaa xididada loogu siibo ama maxkamada loo keeno ma garateen si fiican walaal marayna waan gartay walaal waan fahmaya waan la socdaano daahir cali soo si fiican baan u qaaday waayaa cusub runtuu sheegay isagu laakiin dadku ma doonayaan wixii runta sheegay Soomaali ma jecel wixii runta sheegay wixii wax bartay waxa la doonaya qof aan run sheegin iyo qof wax baran taas arrinteena noqota waa hadda inaga dan inooguma jirto hooyooyin haddaynu nahay ama ummadda soomaaliyeed aynu nahay ama caruurteena ay maalin walbaba ay badda ku dhammaanahayaan dan inooguma jirto inaga caruurta dhalay waxa weeye arrintaa hooyooyinku culays weyn ha iska saareen waayaha cusub adigii gabdhahana waa idin salaan caruurtiina igu salaan waa mahadsantihiin waan ku salaamay waan insha Allah taala maalin barnaamij baan kugu cusumi doonaa soo celisaa baanimadaadii waad mahadsantahay sucaad maxaa winta joojiya winta iska socotaa maadaama qofku dareen leeyahay waad qiroonaysaa walaal caruur badan baa naga dhimatay Soomaaliyeed kuwii lagu nasan lahaa wixii Soomaaliya oo dhan baa dhamaaday dhalinyaradii Soomaalida bad baa dhamaysay anigu ma garanayo dadkan waaweyn dadku Ingiriiska marka wadanka la joogo dadku ritaar baa la galaa Soomaha Soomaalida ragoodu ritaar ma galaanba marba kib ka sii weeyay oo ka sii xukum jeclaada halo salaamu calaykum halo waan ku maqlay wal magacaad ka hadlaysaana السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلام عليكم سلام marka joogto gabdhaha meesh fadhiyo waa wada salaam London ka soo hadlaayeen waa ku soo dhaweynay walaashay macaanay waxaan ku hadlaynaa maanta barnaamijka tacsidaad tiraayada la ilaa ilaa wana ilaa raajicuun dhalinyaradii geeriyooday walaalay ku geeriyooday wiigii hore axadii aad la socotay TV meel baad ka daawatay maxaad ka oranayd walaalo إنا لله وإنا إليه راجعون وحنون وصومالي كسو كردي واي ومالمهان دنبو ودور يتوبن سنة إيتاي بساس لو وذا دمانا إلا سنواتي ugu darneyd marka intii ummadii wiilashaas ka geeriyooday gabdhahaas biilaahay samri imaha Allah ka wada siiyo ummadda Soomaaliyeed Allah ka siiyo anakoo dhan Allah naga wada siiyo hooyooyin anahay oo qurba joogo ama wadanka joogo hooyo meel kasta way ku dhibantaa amalkiisa isku ogsoon tahay ها marka dhibaatada jirto waxa way ku wadanka joogay oo shaqooyinka ka heli lahaa oo markay wax soo barteen hooyada ku soo dadaashay oo dhibaato irfaad lagu soo koriyay dagaaladii dhacay la soo koriyay markay wax soo barteen markay PhD ama shahaadada ay qaateen ay shaqo heli lahaayeen hadii shaqadii ay noqotay garabaysi ama ay noqotay qof kale inuu galo wiilkaas iyo gabadhaas maxay ka qabanayaan wadanka ama halis weydiiyaba waxay ka qabanayaan mala waa in dhalinyarada Soomaaliyeed waa Soomaali dadka u soo kici lahaa anaga waa weynaanay waa dhalinyarada soo kici lahaa waa in la sii space waa inay shaqeystaan waa inay gabdhihii wiilasha isguursadaan jaanis la sii waqtigii hore anagu dawladda maxamed siyaad baraagsan aan wax dhalnay jaanis la haystay ilaa hadda sida umalaysa dagaalada si u dhaceen sukay wadankeena lagu kala qaxay jaanis ma laha wiilasha iyo gabdhihii marka wiilka wax soo barto kubana bam iyo wax daran laayo kubana badihii ay saxariye ku dhamaadeen iyo wadamada dariskay ku wada xiran yihiin marka dawladda Soomaaliyeed waa eedeena gabdhihii hore waxay yiraahdeen ma la eeda waa la eeda ay soo gaab wala buuxaad badan baa sugaya telefoonka walaale maxaad ku soo goongulaad lahayd والله amalkiisa caradayda lama soo koobi karo walaali lama soo koobo bariyahan oo dhan barodiiqa waxaad ku soo koobtay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun su'aad gaba kala hayso ma walaalo waxaan ku yar sugaya codkii kala maxaa walaal kan waxa la yiraahdaa maamada Soomaaliyeed buu ka hadlayaa waanu nasteexaynaya waxaan leeyahay samri iimaan Allah ka siiyo ilaahay ka tigay Allah ciise kula waana u ducaynayaa inuu bedel khayr qabo u bedelo hooyo kasto ilmeedu geeriyo insha Allah ilaahay ku mamada Soomaaliyeed ma dhaw madinana namadada Soomaali ma dooyenu madinayn
iyo maanta waa maalin mugdihe ay la fuururtaa iyo maanta waa maalin mugdihe ay la fuururtaa iyo maanta waa maalin ilmahadeedu dhamaysu marin iyo maanta waa maalin ilmahadeedu marayso dhamadhaban iyo maanta waa maalin lameeday mahurtadii iyo maanta waa maalin caada hawgeenu yahay murtaax ina maanta waa maalin caada hawgeenu yahay murtaax imideya hadeeda madaxdee dhulkahan lahaa iyo midiyahan dihide madaxdee dhulkahan lahaa murugo kama hayheso meheyd baanbar xidhan yo muluq na muruga kama hayheso meheyd baanbar xidhan yo muluq muruge kama hayso meheyd kee dhinteeyo mid nool na murugi kama hayso meheyd kee dhinteeyo nin nool iyo maha madaxdii dhulkee waa iblays milmilan ina maha madaxdii dhulkee waa iblays milmilan iyo maha madaxdii dhulkee waa iblays milmilan imalaha muuqaadu moodenina naqaan imaha Soomaali ragga meeshayo hururaa inamaha Soomaali ragga meeshayo hururaa iyo midkan oo keena haddii mid oran lahaa ina hooya muruge haysan baa maanta degi lahayd iyo midkan oo keena haddii mid oran lahaa way hooya muruge haysan baa maanta degi lahayd iyo mama naxariis ilaah mawlaqayhi ku sii iyo meel kastoo hor joogto allah maalikuhu maciin aad baan kugu mahadcelinaya sucaaday meel kastoo joogto allah maalikuhu maciin sawirka ku muuqda ilmahaaga mahad ku yeelay miciinka cawida rabbi maalikuhu deeq murugta iyo ciilka rabbi maalikaha masuuxo allaha mulku mahal weeye hakaha masuuxo maalig baa qorayo qadarka meelan maari karayn iimaanka qabo haridin balde qadhegayhiso sidee ilka ugu direen na balde qadhegayhiso sidee ilka ugu direen waxaan dihday ubadadaha moodidehi qiila waxaan dihday ubadadaha moodidehi qiila na durustiyo cilmiga markay diinta soo barteen dib loomihii ay heleen jaamacaha dugsiile dalkii laga waayay shaqo ay ku deehirsadaan ayaan idhi dihiriyo ma tahriib gashaan waxaan idhi dihiriyo ma tahriib gashaan ana idhi deheriyo ma tahriib gashaan dahabkii baani hibshay dahartiina waahaan u gaaday dahabkii baani hibshay dahartiina waahaan u gaaday iyo dollar baahan siiyey daarihii qamar baahan ku iri anaa u dalbadayo maha hawdkeesa doohuna iri aniga u dalbadayo maha hawdkeesa doohuna iri inaan ilma dahaadi mahadeere jaweyn
inaan ilmadaahadiyaha mahadeeri jawayn maxaadanaha haatanuhu aynu daharanahay ewudida ubadkiina tahriibtay ku taagan yiin inadeeda tahriibta obahadkeena dumarkiiu oo dalkii hooyahalay hogaaye deeri jahela dunida bahale noholu dushiisa dhigay dunida bahale noholu dushiisa dhigay haddaan nahay dawla Soomaali dahabkii lumay dunida afarteeda gees baynu dahadsanahay inooma damqaado binihi aadan waxayna dilay inooma damqaado aadan waxayna dilay afrika ha ku dahaalin carabta inuu uga daran dugaaga loo xirayo deerihejooyin loogu daray shimbira daalaq yeereeyo bahahaasinu dahab ku dhacay ayaa loo deeray dadoo ay dirmahamuleen gabayga tiraanyada ee nagooda oohiya dhammaanteen hooyo walba maanta ila jiifta meelay ooyeyso ama ilmaheedii ka ooyeyso dhibaatooyinka maanta taagan waxaan uga sii degtiinay anigu tan kale soo socota intaasoo malaayiin baa soo socota badan kusoo qulqulaysa oo iminka qaahiro joogto barnaamijka iminka daawanayo oo la socdo inay soo socdaan iyo kulay way naga go'aanta inaan soo baxno iyo dadka beenta u sheegaya badda kusoo daata wadankii wax meeyaale wallahi marka yani waana idin sheegay rasuulku ku duceystay kuri badda iyo dabka labadaana isku sameeyaan hadaynu Soomaali nahay marka faadmood oo walaalinankaaga waad soo xasuusatay kulli isba dhintay teenage-ka ahayd kusoo daashay ee lagu dilaa kana dawladna wax ka qaban Ingiriisiya mid kale ka qaban wax marka Soomaalida waxa la moodaa maabka Soomaalida Afrika maab baynu saasan maabka ugu jirnaa furar arday waxa loo yaqaan maabka laakiin Soomaaliya waa tugu masaaxada weyn laakiin waxa doonayaan in taayir masaaxada hadda in la xiro oo la baabiyo taas Soomaali ku socota shukri wadooda ku dhaad walaalahay waxaad ku darsanad walaal waxaan ku darsan lahay hooyadii weysay caruurteeda xoolaheedana ilaa hadda xawlaadlayaal baa lagu haystaa in haddii dawlad isku sheegayo dawlad maba u jeedo dawlad haddii isku sheegayo waa inay wax u qabtaan hooyooyinkii wiilashii xoolahooda inay weyn xoolahooda inay weynin oo xoolahooda oo loo soo saaro dadka madaxweyne iyo waxaas isku sheegaan madaxweyne meesha kuma arkin waxaan amaanay ku darayaa ilmihii wixii dhacay waa dhaceen laakiin nimanka madaxweynayaasha isku sheegaya ee kutubka jaamaca ku dhaartay inay dalka iyo dadka ama waqooyi ha joogo ama koonfur ha jooge kutub bay marayaan waxay leeyihiin dadka annaga madax u ah haddaad madax u tihiin dhibaatada dhalinyarada haysata soo inay ogaataan maaha nimanka madaxda isku sheegaya ilmahoodu dabadaha u jiraan nolol bay haystaan laakiin kuwaas ka nixi maayaan kuwaas nolol ma haystaan aakhiro waa laydin weydiinaya ifkana waa laydin kaga goynaya ilmaha iyo dadka iyo dalka u dhaarateen dawladna waxaa lagu noqdaa waa shacabkiina waxaa ka ogtiin ma jirto waa haligmeen inta joogtaana gaajo u dhimanaysa intii soo tahriibtayna waaba dhimatay ilaahay waxaan ka baryayaa horta inaanan in dambe ina ka soo tahriibin oo halkooda lagu nugeeyo halkooda waa in shaqo abuur loogu sameeyo wax loogu qabtaa wax loogu tara aad baan kugu macnaysay Faadma adigu inta wada dhamaysatay qalbigan uu ku baray aan telefoonada yara galna dad badan baa jiray kun saa ooyay sucaad aad oo sawiraalo iskaamusa aan telefoonada galna insha Allah taala halaw barnaamijka doorka haweenkii waxtarka bulshada ku jirtaan khadka telefoonada ugu buuxaa ugu dhinjaan kuwa digala soo qayb qali kartaan insha Allah taala Faadmo كل ilmaha waad wadaad walaalo hooyana waad dareemaysaa kuwa maanta Afrika joogana waad la mid baad walaalo la mid baan ahay hooyooyinka dhibaatooyinka ku dhaceen oo caruurtoodii oo jaamacada ka soo baxay halo salaam alaykum halo wa alaykum asalaam wa rahmatullahi wa barakatuh wal kusoo barnaamijka doorka haweenka oo maanta aan kaga hadlayno tacsiida tiraadada leh 16 bishii April aan ku jirno dhacday caruurtii dhimatay walaalo dhalinyarada dhimatay ku dhimatay badda Suuriya iyo Turkiga saad u aragtaa walaalo السلام عليكم kor codkaagana u qaado alhaye caruurta Turkiga ku dhimatay wayna ka wada dhinteen codka kor u qaado dhamaanteen horta hooyooyinkii iyo guryihii ay ka baxeen ilaahay
samir iyo iimaanaha ka siiyo iyagana allahu naxariisto talabaadaan doonayo inaan ku daro amaalay waxa weeyaan caruurteenu wadankii markay joogto hooyo kasta waxay ka qaylanaysaa ilmaheedu inuu maqli waayey haddii marka horeba hooyo ilmuhu maqlayo wax xumaan lahaabaa iska yar aabihi hooyo midna ma maqlaan ilmihiina hadduu kaa awood bato xitaa qurbaha la joogo waxaad ka qaban kartaa ma jiro taana anigu dawladna kuma eedaynayo shaksiyaad kalena kuma eedaynayo waayo hooyo iyadu ilmaheedii ka quusatay oo uu maqli waayo de cid kale waxba kama saari karto talabaad waxaa kale meesha yaala wadankeenii marka dawladda laga yimaado waxaa jirtay waqti ilaa iyo dawladiisiyaad bareintan garaadsiday ku siman oo qofku mar baa jira waxda digiba aanay dhoofi jirin had la dhoofi jirin qof scholarship loo dirmayo cidina dhoofi jirin haddana qof waliba wuu noolaa oo wax afkaa ilaahay kala jeexay de wuxuu ilaahay siin lahaa looxal maxsuudkay ugu taali taasna waxaan leeyahay dhalinyaradu wadankeedii way ka qawadeen oo nolol kale marka horeba gaalaha haajirina baa la yidhi inay usoo haajiraan iyo inay soo qabtaan iyo inay mahluuka naftooda geliyaan ma waxa wanaagsan qofku markiisa hore intaanu tallaabada qaadin inuu xagga diinta dib ugu noqdo talabaad ee meesha taale ragga Soomaaliya jooga dacalkay joogaan ha ka joogeene dumarka Soomaaliya wax ma dhicin wax ma kufsan waxna ma dilin waxa qaxiyay oo caruurtoodii iyagiiba haadiyo han raawo ka dhargiya waa ragga hadda jooga hana ogaadaan maalinta qiyaamada iyaga la weydiinayo Allahu akbar wadaadada mid baan leeyahay waxaan leeyahay wacyigelin sameeya oo xagga diinta ka sameeya dumarkana mid baan leeyahay waxaan leeyahay walaal deedaynu inaguba waxba qabsa ilmaheeni kari weyno de waa waran inagu qalloocan oo raggeennii bay noo baneeyey oo dee inay dhoofaan iyo inay silcaan iyo in la istilo iyo in dunida laga qaxiyo in dawlad la-aan meel kasta wiig ay dawladdu tahay maxay ahayd tooy de ilaahay baa daraygeena ina dhigay waxaanaan leeyahay min Somaliland min Soomaaliya caruurta dhalinyarada ah laga joojiyo baasaboorka qof dhoofi kara oo dhalinyaro ah yaanu jirin ha laga joojiyo waa hadday doonayaan inay taasu inay istaagto xuduudahana cid waliba xuduudda waxay la leedahay cid ay la hadasho ama Djibouti ha lala hadlo ama ha lala hadlo Ethiopia ama Kenya ha lala hadlo wala khad badan baa jira walaal macaanay waxa khad ku buuxaan soo gaabi codka because wax telefoon badan baa jira soo soo marka codka marka xaalka markaan soo gaabiyo dawladda waxaan leeyahay miyaan taliyaro helaynin miyaan hoos loogu sheegin maxay hanad hooyo weyday maxay hurda seexan weyday maxay ilmahay bibiqlaysay miyaydan wararka haynin daawadayaal ilaahay waxaan ka rajeynayaa inaad bal heesta iyo midhaha quruxda badan la ila dhuuxdeen insha Allah tacaala waliba dhalinyarada Soomaalida ee soo socotay badaha isku soo qubaya iyo kuwa qaahiro jooga xidhxidhan codkooda dhageystay kulay meel aan ka noqonaa ma jirto qof dhan oo nafti ku jirta wali oo rabad inuu ku sii dhaco oo la nasiib haduu ilaahay kuwa badbaadana markii ilaahay uuna badbaadin baan doonayna heesta dhageystaan ka joogan intii ka baxday naftooda ka qiimo badan oo ka qaaya badan rasuulku waana idin sheegay calayhi afdal salaatu wasalaam wuxuu ka duceystay xanuunka la yiraahdo gubashada waxa dabka iyo biyaha labadaas ay idinkuna isu quureysaan maanta inay isgubtaan oo isqarxisaan iyo inay bad isku soo tuurto inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun hooyo walba Soomaaliyeed maanta waxaan ka codsanayaa ilaahay qalbigeeda adkeeyo dariska maanta nagu dhacay taariikhda madow maanta taariikhda bal madow aan ka galnay maalinta 17 bisha April ee soo dhan ku jirnay marka wiigi hore xadii 440 dhalinyaro soo baxday oo soo tahriibto 440 kiiba la waayay maanta dawladda hadaynu maanta adag haysan lahayn maanta dawladdeenu saamay ahaateen dhalinyarada xaqooda loo soo qaadi lahaa hadaba daawada barnaamijkan waxa fududeeyay kambaniga caalamiga Income Furniture kambanigaas oo kambani caamil insha Allah tacaala dhammaan qurxinta Soomaaliyeed waliba guryaha furniture-ka alaabaha sariiraha hurdada intaba idin soo bandhigi doona insha Allah tacaala waxa ku yeelanaa xaafada Croydon ee halka ka moogaan insha Allah tacaala hadaba dib ugu soo noqono barnaamijka ama xayisiinta daawsiyaha isku soo noqon insha Allah tacaala
shirkadda alaabta guryaha Inigold Home Furniture waxa ay samaynaysaa qiimo dhimis ballaaran oo ah dhammaan alaabta guryaha. qiimo dhimistan ayaa socon doonta bilo kooban oo kaliya. waxa ay shirkaddu qiimo dhimis ku samaysay sida sariiraha jiifka oo ka bilaabanaya 1299 baan oo kaliya. sariiraha loogu talagalay qofka kaliya oo leh meelo lagu kaydsado ayaa waxa ay ka bilaabanayaan 299 geni oo kaliya. soofaha waxaa xilligan laga dhigay 1300 oo baan kaliya. halka alaabta qolka carruurta lagaga dhigay 999 baan oo kaliya. shirkadda Inigold Home Furniture waxa ay samaynaysaa qiimo dhimis gaaraya ilaa iyo 60% dhammaan alaabta guryaha. wax lacag dulsaar ah ama riba lagama qaadi doono. waxaana lacagta u dhiibi doontaa si tartiib ama weliba bilbil ah. haddaba horey u gaar oo booqo xarunta dukaanka Inigold Home Furniture oo ku taala degmada Croydon ee koonfur galbeed magaalada London. wixii faahfaahin intaa dheeraada fadlan kala xiriir ciwaanada shaashada kaaga muuqda. بسم الله الرحمن الرحيم كسلوا هذا برنامج كدور كوينكي واحترك بالشيء إن شاء الله تعالى مركل إن الله وإنا إليه راجعون تحساس المانطة وفرنا إن شاء الله تعالى هل كنا قبيال آدي آدو قيرا بدن بهويو ينكل لو تلاقى إن شاء الله تعالى السعاد يسكو سمارت حلقامتها مدرنا أسوء جد يسقى بجمانته إن شاء الله تعالى دين سو دويسو واحد دوني مركو رب السهرة أرنتن دعدي وأرنت تيران ولا صاد وأرفهم حد رمس شعور هذا ولا معاني ما أنت هو وإنا راجعون والله أمانة مركع أركي إنها يجوان قرعمتي فيه ونسكدميي waxaan dareemayaa hooyooyinkaas hooyo meelay joogtaba waa isku mid hooyo meelay joogtaba waa isku mid aniga iyo kuwaas waxaan nahay same ilmahaas haddii shaqo loo abuuri lahaa markay jaamacadihii dhameeyeen oo iskuulkii dhameeyeen haddii wax loo abuuri lahaa oo wax la siin lahaa dee wuxuun bay qabsan lahay badaa waxay isugu soo tuurayaan ilmihii waxay qabtaan baan ahay ilmihii iyagoo wax bartay waxbarashadoodii meelay kaga faa'iidaystaan soomaaliyana qabiilka ilaahayna ka nasriinoo ka soo rogo qabiilo qaran ma noqdo qabiilkaasa ina rogaya ilmihii hadduu wax bartay waxaa la odhanayaa mid kale la geynaya kii wanka gale xitaa waa la isdhaafiyaa oo midaan waxba gelin baa nin wasiira ama nin xildhibaan odhanaya kan ii geliya oo la geynaya marka inta waxaas ina ku jiraan dee maxaba inoo hagaagi maya saasa ilmaheenu badaa ugu dhammaan hooyana saasay u ooyeysa raas kambooniya raas caseen meelay joogtoba hooya saasay u ooyeysa anina kuwa waa la ooyeynaa la mid baan nahay wiilkaa dhintay iyo kaygu waasayn waxba ma kala duwana aad baan uga xumahay aad baan kugu mahadcelinaa shukri saad u aragta hore intaad mudada foosha xun nagu soo biirtay waxaan u arkaa dowlad la-aanta keenaysa dhibaatadaas haddaad dowlad fiican aan haysan lahayn dhibka waa naga dhammaan lahay marka dhibaatadan aan saan ku jirno waa dowlad la-aanta dhibkaas noo keenayso marka ilaahay naga saara dowlad cadaalad allah noo keeno aamiin ya rabbi aad maasanta walaalo faadimo inkastoo adigu waad ilmahaagii walaal yurub adba aad ku weyday bisha nimanka soo socotay May sanadkii hore ilmahaaga in la dilay isba saad u arkaa wal macaani amaal waa mahadsan tahay waxaan kaaga mahadcelinaynaa dhibaatada mar walba taagan ama gudaha ka taagnaato ee London ama ka taagnaato ee wadanka dibadiisa sida aad maxay ahayd mar walba aad maxay ahayd aad u jeceshahay in ay bulshadu inteeda kale ay beenka la wadaagaan waa dhibaataysanahay waxaan ku dhibaataysanahay keygii aniga aan maxay ahayd Soomaaliya ka soo xambaartoon islaha maanta wax bar berina ha ku anfaco aniguba halkan aan taaganahan ku waayay oo gacanka xaq daran ay ku dishay ha isdhihinina dadka dibadda jooga iyo ilmaha yaryar oo soo baxayo oo soo haajiraya oo naftoodii halaagayo ama waxbarta ama ha baranina dhulkaaga hooyo laguma dhaamo inkastoo ay walaashay Sahra ka dhawaajisay oo cadaalad darro jirto oo dhibaato jirto oo kiyo wax bartay midaan wax baranin la dhaafinayo oo scholarship ay ilmihii madaxdooda u dirsanayaan ilmihii kale oo wax barto masaakiinta ah oo Soomaaliyeedna ay ka tagayaan beenkaas iyo dhibaatadaas iyo xanuunkaas aad u badan ayaa caawa intana keenay amaal way ku mahadsan tahay mar walbana dhibaatada ayay maxay ahayd soo bandhigtaa jirta waxaan leenahay dowladda Soomaaliyeed meel kasto ay joogto hooyooyinka ha loo naxo caruurta ha loo naxo waxaan ahay ururka Child and Mother waxaan u sameeyay cunugeygii markaan halkaas ku waayay aan ururkaas u aas-aasay in caruurta Soomaaliyeed kuwa dariiqa jiifa
kuwa dhibaatadu ay haysato kuwa koolada jidka ku dhuuqaya inagu maalin iyo habeen caruurteeni waxa waaye baararka iyo maqaayadahan ka qadaysiinaa laakiin kuwa waxay cunaan waaye oo hooy waaye oo meelay aadaan waaye hooyadii rafaadkaas wax kusoo korisay ee dhibaatadaas iyadoo yaanyo gadaysa ama jidadka xaaqaysa ama dadka lacagta haysta dharka u dhaqaysa cunugii ay kusoo korisay oy wax kusoo bartay inay maanta weyso aad iyo aad waa mid looga tiiraanyoodo dowladda Soomaaliyeed waxa ka qabato arintaas intaasaan leeyahay sucaad maanta waa hooyo Soomaaliyeed gabay cajiibana soo wada iyadaan u deenaya barnaamijka inta hadhay gabayga hooyeyna wada sucaad aadna wad garanaysa kulli in badanna wad soo ooday walaal mar walbana wad ooday waxa qof aad u qalbi jilicsan halka dheerna ay soo martay waqti badanna barnaamijkeena yani gabaygan qaybtid aad u soo badhatid barnaamijka doorka haweenka ummadda Soomaaliyeed wad ku maasantay walaal ku soo dhow aad baan u dhowhay amaale laakiin waxaan la yaabanahay Soomaalidu meel kasta hadday afar meel isugu timaado waxay tiraahdaa dhibaatada haysata Soomaalidu way arkaan laakiin waa intaa isla joogaan bay ka hadlaan male wax ka qabasho ay wax ka qabanayaan waxaan rajeynayaa inay hooyada ilmaheedu dhintay halkeeda ku qabowdo amiin waxaan rajeynayaa inuu boggeeda ilaahay u qaboojiyo amiin عوض خير قبل على سير آمين بسم الله وحنا لكن كلا هذا يا هو يدا الصوماليات أنا من سنة هاي فكرة ضغطان متكدون وي هل كنا نقصب اللي جاية سيدا ولا ددي هو صومالي وأنت مغانا هيا ورددي هو صومالي وأنت مغانا هيا دمير حمادي هيدا عيل بندق سنة هيا دمير حمادي هيدا عيل بندق سنة هيا وحانا هيدا هالنوبة هاد كيستيلا هيان وحانا هيدا هيا عوبة هاد كيديدا هيان وانا قاندو هنا يدارنا هي ماهيرو هوي الدقنا هانا هو عندميهر لهين إن هوي الدقنا هانا هو عندميهر لهين وحا أدليه لدوه ديدا دهلنتا نوحا ودليه لدوه ديدا دهرنتا دمر كدليو بد كدوه يولعاردين دمر كديلي وبدك دوه يولعاها